Waa salaam asxaabay maanta waxaan bilaabi doonaa tixane aad u xiiso badan oo lagu magacaabo Dreaming of Breaking Fairy Tale. Intaan tixanaha guda gelin waxaan ka codsanayaa inaad subscribe soo dhaadid muuqaalka like noo saartid si uu meel fiican u gaaro. Taxanahan wuxuu ku bilaabanayaa Shiin oo atriishada filimka u soo cararaysa isbitaalka. Waxaa loo soo sheegay in aabaheedu uu xanuunsan yahay markii ay soo gasho qolka oo jiifay aabaheeda. Waxayna ku dhahaysaa aabsan ay iga tageen oo ay ugu cidleen noloshaan. Wuxuu dhahayaa dhagtaada ii soo dhaweey wax ayaan kuu sheegayaa kadibna wuu dhimanayaa. Kadib waxaa la gaarayaa waqti la aasi lahaa aabaheeda. Shiin waxay waday sabirka aabaheeda eedadeedna iyadana way ilmeynaysay. Waxaa dib noola celinayaa 20 sano waxaan ogaanaynaa sida isku barteen aabaheeda iyo eedadeeda. Aabaheeda wuxuu ahaa tababare dadka bara karatayga isagoo dadka tababarayo iyadana meesha ku ordayso ay isku arkeen. Meesha ayuu ka bilowday jaceylkooda. Shiin waqtigaas waxay jirtay 6 sano. Kadib markii ay isguursadeen aabaheeda wuxuu geeyay Shiin guriga eedadeeda cusub. Eedadeedna waxa uu joogay 2 gabdhood. Waxay baraysaa labadeeda gabdhood oo lagu kala magacaabo Sue iyo Haba. Shiin waxay arkaysaa in aabaheedu aad ugu faraxsan yahay noloshiisa cusub laakiin Shiin maalintaas ay ugu dambeysay farxad. Markii ay soo aaseen aabaheeda Shiin waxay iska cunaysay. Eedadeeda wax inay cunto way diiday wayna iska ilmeynaysay. Gabdhaheedu waxay ku dhahayaan hooyo wax cun hadii kale adina waa xanuunsanaysaa. Iyadana waxay dhahaysaa inaa ka hor dhintay ay ahayd sababtoo ah keligay noloshaan ku noolaan kari la'aantiis ma noolaan kari. Hawa ayaa ku dhahayso hooyo kistaa cun iyadana ku laboonaysaa. Sue ayaa dhahayso hooyo waa inaad dhakhtar ku geynaa laakiin way diidaysaa waxayna dhahaysaa inaysan xanuunsanayn ay kaliya daalan tahay. Shiin waxay niyad iska dhahaysaa waa ina aqli yeeshaa oo aan gurigan iskaga tagaa hadduu aabaheed dhintay. Shiin waxay soo galaysaa qolkeeda aabaheeda intuusan dhimanin wuxuu dhahay waxaan kaaga tagay hadiyad waxaan ku geliyay qaanad labaad. Iyadana waxay bilaabay inay raadiso hadiyada aabaheeda. Aabaheeda wuxuu hadiyahan ugu tagay warqad waxaana ku qorneyd gabadheeda ha marin wada dheer ee mar wada gaaban. Hoteelkan shaqo raadso oo ka hel nin taajir ah si aad noloshaada ugu raaxaysatid. Haddii yaraanteeda la siin lahaa taladan hadda ku siiyay saaca waa noolaan lahaa degdegan ma u dhiman lahayn. Adduunkan xoog wax lagu helo ee maskax iyo aqli ayaa wax lagu helaa. Iyadoo xanaaqsan waxay dhahay aabo waxa ma hadiyad ahaan iga tagtay. Kadib waxaana la tusayaa hoteelka aabaheeda uu sheegay. Hoteelkan waxaa iska leh Moon oo atooraha filimka. Moon waxa uu imaanaya caawihiisa wuxuuna u sheegayaa in hoteelka hoos u dhac uu ku yimaaday 200%. Haddii aysan wax u sii socdaan in la xiri doono hoteelkan. Moon wuxuu ku dhahayaa nolosha inaysan ahayn kaliya lacagtan aan loo naqin adoomo wuxuuna u sheegayaa in noloshan uu rabo inuu ku raaxaysto haddii hoos u dhac ku yimaado uu ganacsi kale uu furan doono. Wuxuu ku dhahayaa aniga waxaan ka dhashtay qoys taajiriin ah lacagtana uusan ka walwalayn hore ay qoyskayga ugu shaqeeyeen lacag fara badan. Kadib markii la gaaro habeenkii waxaan arkaynaa Shiin oo seexanaysa sariirteeda waxayna ku riyoonaysaa aabaheeda wuxuu ku dhahayaa Shiin noloshan adduunka inaysan fududeen ay ka rabto adeeg aadna isku yeesho awood si aad ugu gudubto noloshan adag. Iyada waxay ku dhahaysaa waxa igu cidleysay adduunkan aniga keligayga. Aabaheeda wuxuu ku dhahayaa waxaan kuu diyaariyay hadiyad kale wuxuuna ku soo tuurayaa bocor wuuna ku duuduubmayaa. Shiin iyadoo qaylinayso ay hurdada ka soo kacaysaa kadibna waxayna gogolaha ka raadinaysaa fasiraada riyada ay ku riyootay. Waxayna ogaanaysaa fasiraada riyada inay tahay in maalmiro kadib inay isku heli doonto farxad iyo lacag fara badan. Kadib waxaa soo wacay saaxiibteeda waxayna ku dhahaysaa in hoteelka aabaha kuu sheegay in lagu casuumay oo lagu guursan rabo gabar ay qaraabo yihiin. Waxayna ku dhahaysaa ma isku raacnaa soo fiirinay sidoo uu egyahay hoteelka. Shiin way ogolaanaysaa. Maalintii xigtay Shiin waxay imaanaysaa hoteelka waxayna la yaabaysaa quruxda hoteelka. Waxayna isweydiinaysaa in meeshan laga rabin hotel ee laga rabay in laga dhigo qasri. Kadib waxaana la tusayaa Moon oo imaado hoteelka isoo wato daladiisa. Isagoo la hadlayo caabihiisa wuxuu arkayaa nin ubax wado wuxuuna weydiinayaa caabihiisa in ninkan uu ka shakiyay. Wuxuu ku dhahayaa in goobta arooska ay yaalaan ubaxyo fara badan oona loo baahneen in ubax kale laga keeno banaanka. Kadib waxaa arkaynaa aroosada oo sabir laga qaadayo waxaana u soo galaya ninkii ubax waday. Ninkaas qof kale ma ahayn waa aroosada saaxiibkeedii hore. Wuxuu ka soo jeedaa gacanteeda wuxuu ku dhahayaa inuu arooskan uusan dhici karin ayna soo baxdo uuna asaga jecel yahay weli uusan ogoleen inuu nin kale guursado. Laakiin meesha waxaa imaanaya Moon wuxuuna ku dhahayaa haddii aysan rabin iyada jaceylkaada inuu meesha iskaga tago si nabad ah. Laakiin aroosada exkeeda wuxuu bilaabayaa inuu la dagaalamo Moon. Moon meesha ayuu ku garaacayaa hal mar wuxuu ugu dhufanayaa caloosha daladiisa ninka meesha ayuu ku dhacayaa. Kadib waxaa bilaabanaysa xafladda arooska waxaana soo wadagalayo aroosada iyo arooska oo gacmaha is haystaan. Shiin saaxiibteeda waxay ku dhahaysaa inay ka maseertay gabadha aroosada maadaama ay heshay nin taajir ah iyadoo 20 sano jirto ayna nolosha ay rabto ay ku noolaanayso. Dhinaca kale waxaa arkaynaa Moon oo caabihiisa u baaqaayo. Asaga wuxuu ku dhahayaa 9 saac bar waaye. Caabihiisa wuxuu ku dhahayaa saacad kuma weydiin ay gabdhahan fiiri oo ka soo qayb galay arooska. Moon uma wajeedo gabdhahan. Gabar walba oo fiiriyo waxay ula muuqataa inay dhagaxaan meesha fadhiyay yihiin. Kadib markii uu dhamaado arooska waxaan arkaynaa Moon ushiis ku tiranayo maradiisa. Marada wuxuu saarayaa miis korkiisa marada way soo bidaysaa isaga meesha iskaga tagayaa. Marada sida uu soo bidayso waxay wajiga u tagaysaa Shiin. Shiin markay aragto marada waxay niyad iska dhahaysaa waxa ku soo doontay nasiibkaada. Shiin markii ay tagto guriga eedadeeda waxay u sheegaysaa inay uur leedahay uuna cunugan yahay xasuusta kaliya ay ka haysato ninkeeday dhintay. Shiin waxay soo xasuusanaysaa in maalinta tacsida aabaheeda saaxiibkiis inuu tusay message Shiin in aabaheeda uu qaatay
deymo fara badan inta uusan dhiman ka hor. Wuxuuna ku dhahayaa waxaan u baahanahay lacagteyda. Iyadana waxay ku fiireysay sidii deyntaas u gudi lahayd, laakiin haddana loogu soo daray cunug kale culeyskiisa. Maalmo kadib waxaan arkaynaa in bangiga uu la wareegay guriga alaabta taalay si loo gado oo loo gudo deyntii lagu lahaa aabaheeda. Hawa way ilmeynaysay waxayna ku dhahaysaa Shiin adoo ku dhalay maa deynta ka gudid maxaa anaga gurigan loola wareegayaa. Hawa waxay ku xanaaqaysaa sabirka adeerkeeda oo dhintay, waxaana ka celinayso hooyadeeda. Waxay rabtay inay sabirka dhulka ku dhufato oo ay ku ciil baxdo, waxayna isku garaacaysaa dhulka iyadoo ilmeynayso. Maalmo kadib waxaan arkaynaa Shiin iyo walaalaheeda oo u soo guuray guri cusub, waxayna isku qol seexanayaan. Hawa waxay Shiin ku dhahaysaa aniga waxaan seexanayaa sariirta, adigana waxaa seexanaysaa dhulka, haddii aad diididna iskaga tag guriga. Kadib waxaan la tusayaa Shiin eedadiisa oo baranaysa ciyaarta dhexjebiska ay ciyaaraan carabta. Siday isku luluuxayso hal mar ayay dhulka ku dhacaysaa, waxaana la geynayaa isbitaalka, waxaana u imaanayso Shiin. Dhakhtarada Shiin waxay u sheegaysaa inuu cunug caafimaadkiisa uu fiican yahay, uusan wax dhib ah gaarin. Kadib waxaa soo kacayso eedada, waxayna Shiin ku dhahaysaa waxaan u malaynayay inay wax ku soo gaareen. Ayada waxay ku dhahaysaa kaliya waxaa lagu jiraa waqtigeyga, sababtoo ah waxaan uur ku yeeshay anigoo qof da ah. Shiin waxay u sheegaysaa inay xal ku riyootay aabaheeda uuna hadi'aan u siiyey bocor. Eedada markay maqashay waxay habsiinaysaa Shiin, waxayna dhahaysaa bocorka qof kale ma ahan, waa cunugan uurkiisa leeyahay. Shiin waxay ku fikiraysaa sida uu caawinayo walaalkeeda dhalan doona, sidoo ugu noolaan lahaa nolol fiican. Intaas kadib waxaan arkaynaa Shiin oo fadhiis qolkeeda, waxayna qaanad ka soo bixinaysaa warqadii uu aabaheed uga tagay, waxayna nafteeda ka ballan qaadaysaa inay meeshan shaqo ka heli doonto. Kadib waxay bilaabaysaa inay isku fiiriso dharkii ay ku aadi lahayd shaqada, waxayna arkaysaa inay cayishay uusan la facin si uu ula facaado jirkeeda muddo 3 biri ah, inay miisaankeeda ay ku dhinto. Waxaana u bilaabanayso maalinteedii koowaad, waxayna aadaysaa meeshay ku almiinteeyaan dadka waayeelada oo maadaama iyada haysan wax lacag ah. Waxay bilaabaysaa almiintada, siday u wado waxaa la gaarayaa maalinta 24aad iyadoo dhiman tahay 6 beri. Waxay isku tijaabinaysaa inuu la facaaday dharka, markii ay gashato wuxuu ka jeexmayaa dhabarka iyo labada gacmood. Waxay dhahaysaa Shiin dhib ma lahan, 6 beri kuu dhiman waa inaa gaajo isku dishaa, kaliya biyo lay cabtaa. Waxaa arkaynaa Shiin oo dhulka jiifto oo gaajo darteed dhulka u seexatay, xataa biyo agteeda yaalo aysan soo qabsan karin. Waxaa qolka ugu soo gelayso Hawa Butucey oo wadato cunto fara badan, waxayna ku cunaysaa horteeda. Shiin iyadoo xanaaqsan waxay dhahaysaa war meelahaas maan ku cuntay cuntada, maxaa horteeda ugu cunay? Kadib markii habeenkii la gaaro waxaan arkaynaa Shiin oo gurguranaysa iyadoo hal maal ugu dhiman yahay waqti interviewga ay aadi lahayd. Waxay furanaysaa talaagada, waxaana maqlayso Hawa oo jiifto. Markii ay qolka soo baxdo waxay arkaysaa Shiin oo cunto cunaysa, waxayna ku dhahaysaa aniga xataa gaajo ay hayso. Waxayna isku darsanayaan waxa guriga cunto yaalay, waxayna wada cunayaan cuntada oo dhan. Waxaa la gaarayaa maalintii aadi lahayd interviewga, waxayna bilaabaysaa inay marsato make up fara badan, waxayna raadinaysaa kaba ku soo baxayaan, waxayna helaysaa kaba qurux badan oo ay leedahay walaasheeda Sue, wayna soo gashanaysaa. Waxayna soo aadaysaa iyadoo faraxsan hoteelka shaqada ay ka rabtay. Dhinaca kale waxaan arkaynaa Moon oo caabiyiis u keenaya feel dadka interviewga qaadi rabaan, wuxuuna ku arkayaa magaca Shiin, wuxuuna ku dhahayaa waxaan u baahannahay dad aan shaqada waqti dheer ka sii shaqeeyo. Haddii shaqada aan gabadhan siino ciyow inay nin inta iska jeclaanayaan, kadibna shaqada way iskaga tegaysaa. Kadib wuu ka reebayaa warqadda codskeeda. Kadib markii timaado Shiin hoteelka waxay soo koraysaa qaybta kore si u aado qolka interviewga. Kadib waxaa meesha soo dirayso saaxiibteeda, waxayna ku dhahaysaa haddii ay kabta aawdadid ay kaa siimato oo ay ku dhacdo ninkaas wuxuu noqon doonaa ninka ku guursan lahaa. Shiin iyadoo kabteeda fiirinayso waxaa ka siimayso kabteeda, wuxuuna ku dhacayaa jaranjarada hoose iyadoo kabteeda ka daba ordayso. Waxaa kor soo fuulayo Moon oo kabaha wado, waxaana is arkayaan labadooda. Markii ay aragto waxay niyadda iska dhahaysaa waxaa heshay ninkii aad ku riyoonaysay. Wuxuu dhahayaa waa inaan ku maxkamadeeyaa. Iyada waxay niyadda iska dhahaysaa sabab maxaa qalbigaaga maa xaday oo nambarkayga maa rabtaa. Kadib waxay dhahaysaa maxaa ula jeedaa. Wuxuu tusayaa kabaheeda, wuxuuna ku dhahayaa waxaa rabtay inay idishid. Wuxuu u sheegayaa inay kabaheeda madax ugu dhufatay ayna sidaas ku dil rabtay. Shiin way raaligelinaysaa, waxayna ku dhahaysaa inaysan waxaas ahayn kas, kaliya ay ahayd shil. Waxayna ku dhahaysaa isii kabtayda. Moon wuu u diidayaa, wuxuuna ku dhahayaa tan inay tahay caddeyn ayna si kas madax ugu dhufatay. Shiin waxay ku dhahaysaa maxaa haddii shimbir korkaada marto xataa inay ku dil rabto ma u malaysaa. Waxayna ka dafaysaa kabteeda wayna kala tuuraysaa, isla markiiba way qabanaysaa. Waxayna ku dhahaysaa intii haddaay ay ahayd shil tanna ay tahay si ula kaca, haddana waa ku badbaadiyey. Kadib Shiin waxay imaanaysaa xafiiska interviewga, waxayna arkaysaa inuu Moon yahay milkiilaha hoteelka. Kadib markuu arko Shiin wuxuu ku dhahayaa in meeshan kaliya laga shaqaalaysiinayo dadka fiican, aan laga ogoleen dadka adiga camal ayna iskaga laabato gurigeeda. Wuxuuna ku dhahayaa in haddaay aad war badneed hadda maxaa kugu dhacay. Shiin waxay ku dhahaysaa inay shaqadan ay rabtay inay nolosheeda ku beddesho, laakiin adiga ay hor istaagtay. Waxay bilaabaysaa inay habaarto, waxayna ku habaaraysaa inuu
nolosha usoo gaabato uusan farxad hal maalin ku noolaanin ayna biriq madax ugu dhacdo asoo filaynin. Moon wuxuu wejigeeda ku aadinayaa ushiisa si uu iskaga difaaco habaarkeeda. Shin meeshuu iskaga tegaysaa. Kadib waxaa arkaynaa Moon oo kasoo degaya jaranjarada oo u socdo xaafadiisa. Shaqaalaha mid ka mid ah waxay weydiinaysaa caabihiisa mar walba muxuu wataa daladan, wuxuuna ku dhahayaa in waxa aysan kaliya ahayn dalad uuna isku difaaco. Dalada usheeda inay ku hoos jirto mindi saaid u dheer. Markii uu Moon usoo bax banaanka waxaa dhacaysa biriq aad u badan, wuxuuna soo xasuusanayaa habaarkii ay habaartay Shin. Isaga oo cararayo wuxuu kusoo laabanayaa hoteelka. Markii uu imaado qolkiisa oo isdhaho seexo, Shin waxay usoo baxaysaa meel walba oo fiiriyo. Subaxdii markii la gaaro waxaan arkaynaa Moon oo xalay dhan dhafray si meel walba oo fiiriyo ugu soo baxaysay Shin. Kadib wuxuu fiirinayaa CV-geeda wuxuuna isdhahayaa maxaa adigu samaysay anma indha sarcaad igu samaysay. Dhinaca kale waxaa arkaynaa Shin oo iska cabays caanaheeda ay aad ku jeceshahay waxaana soo wacayo Moon. Markay ka qabato taleefanka wuxuu sheegayaa in codsigeeda shaqada la aqbalay ayna shaqada timaado isla maanta. Markii ay hadalkaas maqasho iyadoo faraxsan hal mar ay kursiga ka kacaysaa waxayna ku dhahaysaa amaad iska kaftamaysaa oo aad igu dhedheelaysaa. Asaga wuxuu ku dhahayaa run waaye shaqadan imow. Intaas kadib waxaa arkaynaa Moon oo joogo qolkiisa oo marba isku fiirinayo dharkii uu shaqada ku aadi lahaa. Kadib wuxuu kusoo libsanayaa dharkiisa midka ugu qaalisan wuxuuna dhexda kusoo xiranayaa suun qaali ah. Kadib waxaana la tusayaa Shin oo timaada hoteelka. Moon wuxuu ku yimaaday gaarigiisa. Kadib waxay arkaysaa suunka oo dhexda kusoo xirtay waxayna dhahaysaa hal mid ayaa rabaa inaan kuu sheego. Asaga wuxuu dhahayaa ii sheeg maxaa kaloo soo wadaa. Ayada waxay taabanaysaa suunkiisa waxayna u sheegaysaa inuu suunkan yahay suun gabdhaha dugsi hoose ay xirtaan. Asaga wuxuu dhahayaa ma ahan waa suun aan lacag badan aan kasoo bixiyey. Shin waxay ku dhahaysaa waxaa laga yaabaa inay isu eg yihiin wayna ka tegaysaa meesha. Moon suunkiisa isagoo xanaaqsan ayuu iska furayaa. Kadib markii ay soo galaan gudaha hoteelka Moon wuxuu isku wacayaa shaqaalaha wuxuuna ku dhahayaa inay Shin tahay shaqaalo cusub oo kusoo biirtay hoteelka. Wuxuuna ku dhahayaa shaqaalaha isku imaada waxaanu samaynaynaa soo dhaweyn. Kadib waxay soo wada fadhiisanayaan kuraasta iyadoo yaaban waxay weydiinaysaa caabihiisa maxaa waaye waxaan. Wuxuuna sheegayaa inay mar walba ay sameeyaan sidaan markuu qof cusub oo kusoo biiro hoteelka. Qof walba wuxuu sheegayaa waxa ay riyadiisa tahay. Kadib waxaa bilaabanaysa inuu qof walba uu sheego riyadiisa waxa ay tahay. Waxaa la soo gaarayaa Shin waxayna sheegaysaa inay rabto inay u noolaato sida Cinderella oo kale. Hal mar ayay soo wada fiirinayaan ayagoo la yaaban. Kadib waxaana la tusayaa kulligood ayagoo taagan xafiiska Moon hortiisa. Caabihiisa wuxuu ku dhahayaa maxaa maalintaada koowaad u dhahday waxaan rabaa inaan noqdo amiirada lacagta. Ayada waxay ugu jawaabaysaa idinka ay dhahdeen sheeg riyadaada anina qalad kuma lihi. Kadib waxay soo galaysaa xafiiska Moon. Moon wuxuu ku dhahayaa Shin waa ay khiyaantay waxa uu maleeyaa inaad shaqo daacad ka tahay aad rabtid inaad shaqaysatid laakiin waxaad damacsaneed wax kale. Waxay rabtay inaad nin taajir aad inta ka heshid aad isguursataan. Shin waxay ku dhahaysaa sax waay warkaada waxaa halkaa u imaaday inaan nin fiican ka helo aan isguursano. Moon wuxuu ku dhahayaa aniga ma jecli gabdhaha adiga oo kale. Shin waxay dhahaysaa aniga waan daalay waxaan u baahanahay qof dhibkan iga saaro si aan u nasto. Moon uu diidayaa shaqada wuxuuna ku dhahayaa adiga camal shaqadan laguguma talgelin iskaaga laabo gurigaagada. Shin waxay ku dhahee hal fursad isii oo arag shaqadayda. Moon wuxuu ku dhahayaa waxaan ku siinayaa hal fursad ay ka faa'iideyso wuxuuna u sheegayaa inay tartamayaan haddii ay ka guulaysato uu shaqo siinaayo. Kadib way is soo wada raacayaan waxayna wada fadhiisanayaan xeebta agteeda waxayna rabaan inay ku tartamaan labadan caag oo waaweyn oo ka buuxo cabitaan. Qofkii dhamay ayaa guulaysanayo. Kadib waxay ku tartamayaan qofkii bilaabi lahaa cabidda cabitaanka. Waxaa ciyaarta gacanta ku guulaysanayo Moon waxaana cabidda bilaabayso Shin waxayna u sheegaysaa inay leedahay awood fara badan ayna u daahaynin halkan caag cabitaanka. Waxayna afka furaysaa caaga waxayna bilaabaysaa cabidda cabitaanka. Moon wala yaabayaa waxayna la noqonaysaa inay dadka biibiraan wuxuuna dhahayaa war tartiib u cab. Shin way dhamaynaysaa cabista cabitaanka waxaana la gaarayaa waqti uu cabi lahaa Moon. Moon caaga ayuu soo qabanayaa afka ayuuna ka furayaa. Kadib markuu wax yar ka cabo hal mar afkiisa waxaa kasoo baxay qiic fara badan wuxuuna ku dhahayaa adina biri ma tahay waxaan sidee ku cabtay. Shin waxay ku dhahaysaa waan kaga guulaystay ee ii saxiix warqadda aad shaqada ii ogolaanaysid. Moon wuxuu ku dhahayaa haye waa ii guulaystay wuxuuna u saxiixayaa warqadda. wax yar kadib markay meesha fadhiyaan waxaan arkaynaa Shin oo caloosha laga qabtay. Markay kacis dhahdo Zaid ayaa caloosha loo sii qabanaya. Moon wuxuu weydiinayaa wax ku dhacay. Waxay ku dhahaysaa waxaan u baahanahay suuliga mana socon kari. Wuxuu u dhiibayaa daladiisa hal mar ayuu soo xambaarayaa wuxuuna ula soo cararayaa dhinaca suuliga si aysan isku halaynin. Sida ula soo cararayo wuxuu keenayaa suuliga. Markay ay ka soo baxay suuliga waxay imaanaysaa meesha waji dhaqa waxayna isdhahaysaa Moon ma baxay mise uu taagan yahay banaanka. Waxayna arkay inuu ku sugooyo banaanka. Waxayna dhahaysaa sidee u tagaa wajigiisa ceebtaan. Waxayna banaanka soo baxaysaa iyadoo isboojeynayso oo xataa wajigiisa aan fiirin karin. waxayna ku dhahaysaa ma fiirin kari wajigaada oo waan kaa xishoonayaa. Kadib waxaana la tusinaya Dana oo meesha imaanayso waxayna u sheegaysaa inay hoteelka soo weysay inay kusoo raadisay GPS mobilka. Dana Shin waxay u sheegaysaa inay isku firaandigeliyeen iyada iyo Moon ayna mardhow isguursan rabaan. Shin way ka xanaaqaysaa waxayna ku dhahaysaa oo gabar kalma isguursan rabtiin beenlow. waxayna ku dhahayaa idin qasin ee wada sheekaysta wayna iskaga tegaysaa iyadoo cararaysa. kadib maalintii xigtay waxaan arkaynaa Moon oo gaarigiisa ku yimaada hoteelka. Shin iyadana waxay timid hoteelka waxayna arkaysaa Moon waxayna isdhahaysaa intuusan ku arkin hoteelka dhuumasho ku gal laakiin Moon uu arkayaa iyadoo ka dhuumanaysa. Wuu u wacayaa wuxuuna ku dhahayaa hey wejigay ma ka dhuumanaysaa xataa xalay ma ay dhihin mahadsanid shalay sida aan
aan kuu qaaday xalay ma seexanin gacmaha iyo lugaha dhan way xanuunayeen shiin waxay ku dhahaysaa anoo ku dheero mahadsanid waxaa imaaday gabadha aad isku faraand geliseen oo maxaa ugu dhaqmaysay qof aan xiriir lahayn waaba guurso rabtaaye asaga wuxuu dhahayaa oo maxaa rabtay inaad jecel igu abuurtidaa kadibna aad ku guursado sidaas aad taajir ku noqotid shiin iyadoo qoslayso waxay ku dhahaysaa oo adiga jecel maba aaminsanid dumarku waxaa u aragtaa inay yihiin sida dhagax oo kale adiga qof waalan ayaa tahay muun wuxuu shiin ku dhahayaa aniga maa waalan haddii aan waalaan lahaa maa inta shaqo ka heli lahayd iyada way u mahad celinaya waxayna ku dhahee waxaan ka dahay shaqada wayna ka tegaysaa kadib markii hoteelka soo gasho waxaan arkaynaa shiin oo dharkeeda toosinayso yang wuxuu u sheegaa inay maalinteeda koowaad tahay oona la bari doono hoteelka yang wuxuu keenayaa qaybta koowaad wuxuuna ku dhahayaa in qaybtan loogu talagalay inay ku ciyaaraan dadka taajiriinta siday usoo xasuustaan yaraantooda shiin waxay arkaysaa muun oo ciyaaraya sida ilmaha oo kale wayna la yaabaysaa haddana wuxuu keenayaa hoolka shirarka wuxuuna tusayaa sawirada ugu jecel yahay muun waxayna arkaysaa sawir waxayna weydiinaysaa yang yaa waay sawirkan yang wuxuu ku dhahayaa sawirkan waa muun waana sawirada uu jecel yahay kadib waxaa arkaynaa yang oo shiinka la barayo hoteelka waxaana hoteelka soo gelaya macaamiil cusub markii ay aragto way u tegaysaa wayna soo dhaweynaysaa asiga wuxuu weydiinayaa shaqaale cusub maa tahay waxaa tahay gabar qurux badan kadib muun ayaa gadaal ka soo hadlaya wuxuuna ku dhahayaa weli gabadhan waxay ku jirtaa tijaabo shaqadan khibrad fiican uma lahan muun wuxuu ku dhahayaa shiin waa in shaqadan lagu baraa kadib meesha ayuu kusoo wadayaa ayagoo wada socda waxaa kor ka arkaysa daana waxayna weydiinaysaa shaqaalaha hoteelka gabadhan xala muun waa ku arkay maxay inta ka samaynaysaa asaga wuxuu dhahayaa gabadhan waa shaqaale cusub waxayna ku jirtaa tababar markii kooda ay timid waxay dhahday waxaan inta u imaaday inaan nin fiican oo taajir inaan inta ka helo oo i guursado muun wuxuu rabaa inuu riyadeeda burburiyo sidaas darteed ayuu daba socdaa kadib muun wuxuu keenayaa meesha dharka hoteelka lagu dhaqo wuxuuna tusayaa qaabka dharka loo dhaqo wuxuuna ku dhahayaa hadda kadib inta ayaad ka shaqaynaysaa dharka waa inaad si fiican u dhaqdaa meesha ayuu tegayaa iyada keligeeda shiin iyadoo hoosh iska haysato waxa u soo gelayso daana waxayna ku dhahay inta maa shaqada ka bilowday waxaana maqlay inaa meeshan u timid inaan nin taajir ah oo lacag leh ku guursado shiin iyadoo yaaban waxay ku dhahay adina ma kusoo gaarta xantaas waxayna dhahay aniga ma inkiraayo warkaas waa riyadeyda daana waxay ku dhahaysaa taas riyadaada haddii ay tahay waxaa jirta meel lagu rumeeyo riyooyinka waa inaa meeshaas tagtaa si riyadaada degdeg u rumayso kadib shiin markay soo dhaqdo dharka waxay keenaysaa qaybta kore waxayna daaranaysaa muusig waxayna dhagaha gashanaysaa airpods kadib waxay bilaabaysaa inay dharka ku warto xariga kadib meesha waxaa imaanaya muun wuxuuna isweydiinayaa qoftan waalan maxaa waaye waxa ay dhegaysanayso wuu u soo dhowaanayaa kadib hal dheg ayuu ka bixinayaa si isaga uu u maqlo markuu gishto dhagaha waxaa daaramayso hadalla hees nooc kale oo romantic ah shiin iyadoo ka bixi rabto dhagaha waxaa u baxayso lugta waxayna ku wada dhacayaan dhulka ayagoo jiifa dhulka oo isfiirinayo waxaa hal mar si dhaqsaha u boodayo muun wuxuu weydiinayaa shiin maxaa waay hees noocan ah aad dhegaysanaysid shiin waxay ku dhahaysaa heestan inay saaxiibteeda duubtay inay jecesha inay fanaan noqoto inay youtube-ka soo dhigto si ay caan ugu noqoto waxayna fiirinaysaa muunna wuxuu madax u gelinayaa salid dharka lagu qaato wuxuuna ku dhahayaa ad caadi mid tihid waa inaa kaa baxsadaa waxaana ka hor imaanaysa daana waxayna wada tegayaan xafiiskiisa waxayna ku dhahaysaa adiga amaad gabadhan jeclaatay mar walba waa sala joogtaan leh muun wuxuu ku dhahayaa aniga cunug yar aad dhashay ma ihi oo maxaa ii ilaalinaysaa mar walba daana waxay ku dhahaysaa waa inaa ii caddaysaa gabadha inaa jeclaanin asaga wuxuu ku dhahayaa sidee kuuga caddeeyaa ayada waxay ku dhahaya waa inaa shaqada ugu burisaa sida ugu dhaqsiyaha badan muun wuxuu ku dhahaa qofkaan burinaayo adiga kuma weydiinaya ee iskaga tag meeshaan kadib waxaana la tusayaa shiin oo shaqada soo dhammaysay oo u socota xaafadeeda iyadoo daalan waxaa meesha soo maraya muun oo gaarigiisa wato wuxuuna bilaabayaa inuu ku jejeeso shiin wuxuuna ku dhahayaa meesha inaysan raaxo aalin ayna mar walba ay aadi doonto xaafadeeda iyadoo daalan kadib shiin waxay imaanaysaa xaafadeeda waxayna arkaysaa habaa oo waxay beerayso waxayna weydiinaysaa inay lacag ay deemiso waxayna dhahaysaa oo lacagtaas maxaa ku falaysaa waxay ku dhahay waxaan rabaa inaan riyadeeda rumeeyo waxaa jirto meel riyooyinka lagu rumeeyo habaa waxay ku dhahaysaa waxaas yaa lacag lagaaga cunin waxaas waa been wayna u diidaysaa inay lacag deymiso kadib waxay imaanaysaa suu isbitaalka ay ka shaqayso iyadoo la hadli rabto suu waa la soo wacayaa wayna ka tegaysaa kadib midka jecel walaasheeda wuxuu ku dhahayaa waan ogaay waxaa meesha u timid waxay rabtay in walaashaada lacag deena aad weydiisatid shiin waxay ku dhahaya adig sidee ku ogaatay jini maa tahay asaga wuxuu ku dhahaa aniga waxaan ahay dhakhtar waxaan ka fahmaa dadka aragtida koowaad haye meeqaa rabtaa ii sheeg shiin waxay ku dhahaysaa waxaan u baahanahay $1 asaga wuu ku qoslaa wuxuu ku dhahaa kun leeyaa waan ku siinayaa laakiin hal mid ayaan kaa rabaa inaa ii samaysid waxaan rabaa inaa ii soo xadid walaashaada faraantigeeda mid ka mid ah si aan u ogaado seeskeeda waxaan rabaa inaa usoo gado faraanti dahab ah si aan qalbiga u guulaysto oo ii jeclaato shiin waxay imaanaysaa xaafadeeda waxayna gelaysaa suuliga waxayna usoo qaadaysaa suuliga faraantiga ay dhigata walaasheeda waxayna u keenaysaa asaga wuxuu siinayaa lacagta ay weydiisatay kadib shiin waxay imaanaysaa meesha lagu rumeeyo riyooyinka waxaana joogta naag faalley ah wayna salaamaysaa faalleyda shiin waxay weydiinaysaa maxbaa riyada aad rabtid shiin waxay ku dhahaysaa aniga wax ma haysti waxaan u baahanahay nin taajir ah inuu i jeclaado oo aan isguursano iyadoo xamaasadaysan waxay dhahay waxaan rabaa nin nolosha u kuftay inuu i jeclaado oo aan noloshan aan ku raaxaysto naagta faalleyda waxay ku dhahaysaa waad helaysaa ninka aad rabtid kaliya raac tilmaamahan aniga aan ku siiyo maalintii xigtay waxaan arkaynaa shiin oo shaqada soo aaday waxaana albaabka uga hor imaaday muun wuxuu ku dhahayaa maanta waaba soo dhaqsatee maxaa qorsheynaysaa ayada waxay dhahaysaa oo maxaa qorsheyn lahaa kaliya waxaa u imaaday si aan shaqadeeda u ciyo ugu dhameeyo oo waxaa isugu
kalifooso dhar fara badan inaad dhaqo. Moon wuxuu ku dhahayaa maan dhar ma dhaqaysid, shaqo kale ayaa lagu dhiibayaa. Shin waxay dhahay runtaa miya, wayna u soo dhawaanaysaa, wayna isfiirinayaan sidii cabaar isku fiirinayaan. Moon ayaa wuxuu is dhahayaa tan armaa jeclaataa. Kadib wuxuu dhahayaa ii soo dhawaanin, wax ayaa ka soo uraayo. Shin way la yaabaysaa iyadoo iska shakinayso, waxay oranaysaa dharkeeda. Kadib Shin waxay imaanaysaa suuliga iyadoo iska shakisan inay run waxaan ugu soo urayaan. Waxay marsanaysaa wax atar suuliga yaalay. Waxay arkaysaa Yang waxayna weydiinaysaa inuu wax u soo uraayo. Yang wuu kasii waalaya wuxuu dhahaa wax yar ayaa ka soo uraayo. Iyadoo xanaaqsan waxay dhahay war iga tag adina ha isii waalne. Kadib waxay soo baxsanaysaa warqadii u soo qortay naagtii faaleeda ahayd. Waxay dhahday mar walba waa ina akhrisataa warqadan oo aad niyeysataa ninkii aad rabtay. Iyadoo warqada akhrinayso warqada hal mar ay ka buubaysaa. Iyadoo warqad ka daba cararayso waxay irid ka soo galaayo. Backdoor warqada asaga ayay ku dhagaysaa. Waxay ku fiirinaysay indho naxariis badan. Moon asagoo maseesan ayuu korka fiirinayay. Shin aragtida koowaad ayay ku jeclaatay Backdoor sida cabaar isku fiirinayay labadooda. Backdoor wuxuu geeska fiirinayaa warqadeeda isagoo si akhrin rabo. Shin ayaa ka dafayso warqada waxayna ka goynaysaa galuuska suudkiisa. Waxayna u soo qabanaysaa galuuska waxayna ku dhahaysaa iga raali noqo. Asaga wuxuu ku dhahayaa dhib ma lahan aniga ayaa tolanayo. Wuxuuna iska siibayaa jaakada wuxuuna boorsada ka soo baxsanayaa dunta iyo cirbida ayuu isgelinayaa wuxuuna ku tolanayaa jaakadiisa. Kadib wuxuu gashanayaa suudkiisa. Shin waxay niyad iska dhahaysay kan waaba nin fiican oo taajir ah oo aan kibir badnayn. Kan niman kale waa ku duwan yahay. Waxaan u malaynayaa kan inuu nasiibkeyga yahay oo aan wada noolaan doono 100 sano. Kadib waxaa imaanaya Yang wuxuuna ku dhahayaa markay kugu horeysay miya aad inta timaadid. Waxaan u malaynayaa inaan meel aan kugu arkay. Isagoo hadalkiisii badin rabo Shin ayaa qanjurufanayso wayna soo wadaysaa waxayna ku dhahaysaa aniga macaamilkan soo tusaayo meelaha uu u baahan yahay. Yang wuxuu ku dhahayaa aniga kuguma kalsooni ama wax ku dheyshaa. Shin xanaaqeed wuxuu marayay 100 waxayna ku dhahaysaa war adiga shaqo kale raadso macaamilka aniga ayaa meesha raba geynayo adiga dhagdhag abaareed ma tahay. Dhinaca kale waxaan arkaynaa Moon oo korka fiirinayo Backdoor oo kaligiis meesha taagan. Moon wuxuu u soo dhaqaaqayaa dhinaca Backdoor markays arkaan ayagoo ka dhex qarxi rabo dagaalkii saddexaad ee adduunka waxaa soo dhex galayso Shin waxay Moon ku dhahaysaa inaan shaqadeeda aan qabsado ha iga hor istaagin meesha inaan shaqaysta ayaa u imaaday. Waxaa soo dhex galaya Backdoor wuxuuna ku dhahayaa hay soo bixi meelaha isoo tus hadda kabacdi waxaan noqon doonaa saaxiibo. Kadib Shin waxay geynaysaa qayb soo dhaweynta ayagoo meesha wada fadhiyaan. Asaga wuxuu ku mashquulsanaa akhrinta buugga menuga hotelka laakiin Shin waxay ku mashquulsaneed asaga waxay niyad iska dhahaysay kan amuu yahay cunug yar. Hadda cunugan ma isguursa rabnaa kan 19 sano ama 20 sano waa ka yar yahay. Asagoo la yaaban wuxuu weydiinayaa maxaa saan dhan igu fiirinaysaa wax ma ii sheegi rabtaa. Shin waxay ku dhahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii aadan dhib u arkeenin. Asaga wuxuu ku dhahaa dhib ma lahan waa i weydiin kartaa. Ayadoo waxay ku dhahaysaa meeqsan ayaa jirtaa. Asaga wuxuu dhahaa taas maa dhib leh aniga waxaan jiraa 30 sano. Shin waxay ku dhahaysaa 30 sano waxaa u eg tahay wiil 19 sano jir ah ama 20 jir ah. Waxay ku dhahay ma ii sheegi kartaa sirtaad sidaan dhan ugu muuqatid wiil 19 sano jir ah. Asaga wuxuu u sheegayaa laba mid inaan sameeyo waxaan cabaa cabitaan fara badan iyo mar aan ku tuurto sigaarka. Mid kale waxaan u malaynayaa in hormoonaadkayga uu saameeyo kaliya jirkeyga kale uusan saameynin wejigay quruxdiisa. Ayadoo waxay ku dhahaysaa samiya adiga waxaa tahay qof caqli badan. Asaga wuxuu sheegayaa inuu yahay director sameey filmaanta oona magaciisa yahay Baekdo Hong. Shin waxay ku dhahay adiga miyaa Baekdo Hong wiilkii la siiyey abaalmarinta director ugu da'da ee sanadkan. Asaga wuxuu ku dhahayaa waaba itqaanaa bee adiga filmaanteeda maan jeceshahay. Shin waxay ku dhahay waa ku taageeraa. Baekdo Shin wuxuu ku dhahayaa waxaan maqlay inay meeshan ay adag tahay in laga helo hool lagu dhigto xafladaha. Shin waxay ku dhahay haa hadda meeshan jaam waaye dad badan ayaa mar hore soo booking gareysteen hadda meel banaano qaybta VIP da xataa dad ayaa hore usii booking gareysteen. Baekdo wuxuu sheegayaa Shin inuusan sugi karin maadaama ay dad badan ka horeeyaan xafladeeda meel kale ayaan ku dhiganayaa hotel banaan ayaan raadsanayaa isagoo meesha iskaga tegi rabo waxaa celinayso Shin waxay ku dhahaysaa aniga ayaa kuu raadinaya meel aad xafladeeda aad ku dhigatid waxaan la hadlayaa maamulaha hotelka anigaa ku xalinayo haka welwelin taas adiga waxaa noo tahay very important personal. Dhinaca kale waxaa arkaynaa Dana oo la joogto Moon waxay ku dhahay Shin waxaa u bilowday maalinteeda koowaad ee shaqada waxaan sugi la ahay inaan arko iyadoo Shin ay u rumowday riyadeeda oo noqotay Cinderella oo meeshan iskaga tagto iyada iyo ninkeeda ayagoo gacmaha is haystaan. Moon wuxuu ku dhahayaa aniga gabadhaas wax dareen ah dhinacayga inaan u hayn horena waan kuugu sheegay. Horta adiga ilaa goorme ayaa wadaysaa inaad wax walba aad timaadid xafiiskayga intaan iu ekay ha imaanin mar kale. Kadib irid waxaa kasoo gelayso Shin. Moon wuxuu ku dhahayaa Shin haddii ay wax muhiim ay jiraan hadhow ayaa ka wada hadlaynaa. Dana ayaa soo boodayso waxaan ku dhahay dhib ma lahan hadda waa wada hadli kartiin hadhow maxaa loo sugaa. Shin waxay ku dhahaysaa haddaa ninka arkaysay Baekdo wuxuu rabaa inuu meeshan ka buugin garaysto hoola uu xafad ku dhigto dadka ma laga horumarin karaa. Asaga wuxuu ku dhahayaa haddii aan ku dhaho maya ka waran orod geli qayb weydlistiga. Shin waxay ku dhahay sidee loo gelinayaa weydlistiga qofkan director caan waaye meeshaas munaasab kuma ahan. Dana mar labaad ayay soo boodaysaa waxaan ku dhahay ninkaas caan waaye lacagna waa haystaa. Dana Shin waxay ku dhahaysaa Shinay adiga aad ayaad ugu xamaasadaysan tahay ninkaas waxaan kugu talin lahaa inaad isjeclaatiin. Shin waxay Moon ku dhahay haddii uu ninkan sidaan ku baxo waan ooyi doonaa cuntadii biyahan waan ka go'i doonaa. Moon Dana wuxuu ku dhahayaa waxaan ka wada hadloonaa wax shaqada quseeyo ee gurigaada aad. Dana markay albaab ka baxdo Moon wuxuu u soo jeesanayaa Shin wuxuuna ku dhahayaa maxaa waaye sababtaan u aqbalayo ninkaas inuu inta
xaflad aad ku dhigto. Shiin waxay ku dhahaysaa Moon waqti aan dheereen waxa igu dhahday amiirad Cinderella ma noqonaysid. Laakiin waxaa yimaaday boqorka iga dhigi lahaa boqoradda waxay soo carfayso inaa boqorad noqon rabo. Moon wuxuu ku dhahayaa waxaa noqonaysid noqo kaliya stresskaaga iyo dhibkaaga la iga kor qaad. Shiin waxay ku dhahay ma ogolaatay. Moon wuxuu Shiin ku dhahayaa haa waa ogolaaday laakiin waxaan rabaa inaad adiga iyo asaga inaad indhahayga ka fogaataan aysan ida aankin meelahaas la taga. Shiin Moon way u mahadcelinaysaa iyadoo faraxsan ay ka tegaysaa meesha. Kadib Shiin waxay beegdo u wadaysaa dhinaca gaarigiisa ayagoo wada socdaan niyad waxay iska dhahaysaa haddii ay lugtuu bixi lahayd oo asaga kordhici lahayd oo ku qaban lahaa way ficnaan lahayd romantic ayay noqon lahayd. Moon wuxuu Shiin ku dhahayaa haye hawshaada makuu soo dhamaatay. Shiin wuxuu ku dhahayaa waa soo dhameeyay warqadahan waa soo wada saxiixnay si aadan hadhow adiga isku bedelin. Beegdo waa u mahadcelinayaa wuxuuna soo taagayaa gacantiisa. Moon wuxuu Beegdo ku dhahayaa haddii aad inta ka dhamaatay waa iska bixi kartaa salaantana kama qaadayo. Beegdo meeshuu iskaga tagayaa kadib waxay dhaweynayso Shiin laakiin Moon ma ka daba haraayo ilaa albaabku daba soconaya isagoo soo socod boobsiinaya waxaa arkaysa Shiin waxayna ku dhahaysaa adiga maxaa noo daba socotaa ilaa iyo banaanka. Moon wuxuu ku jawaab ayuu weynayaa wuxuuna ku dhahayaa waan kuu sheegay inuu ilaa hadda wax kaa soo urayaan wuxuuna ku kala tuurayaa dhinac Beegdoona wuu qabanayaa Shiin. Moon hortiisa ayaa jecel ugu jilayaa. Moonna indhataag iyo yaableek soo haraayo. Beegdo wuxuu ku dhahayaa inay saad u soo carfayso wuxuuna u sheegayaa in timaha furan ay qurux badan tahay. Beegdo wuxuu fuulayaa gaarigiisa wuxuu u wacayaa Shiin wuxuu hadiyahaan u siinayaa ninac wuxuu ku dhahayaa waxaan kulmi doonaa xaflad soo dhaweynteeda. Markii uu Beegdo meesha ka tago Moon wuxuu daladiis ku joojinayaa Shiin wuxuuna ku dhahayaa haye intee u sii socotaa. Wuxuu ku dhahayaa in marka ay timahaada ay furan yihiin waxa way eg tahay reer aakhiraad timahaada naga xiro. Shiin timaha way iska xiraysaa. Kadib waxay soo wada galayaan gudaha hoteelka wuxuuna u sheegayaa in sawirad dhan la bedeli doono oo lagu bedeli doono sawiro cusub. Shiin waxay ku dhahaysaa maxaa loo bedelayaa sawiradan wayba qurux badan yihiin haddana sidee aniga keligay u sameynayaa waxaasoo hool ah. Kadib wuxuu usoo bixinayaa kaar wuxuuna ku dhahayaa waa artiistahan wuxuu ku fiican yahay sawirad gacmeedka sida loo sawiro. Kadib waxaa arkaynaa Moon oo joogo meesha lagu barto karateega isaga oo ku jiro tababarkiisa wuxuu macalinkiisa wejigiisa la noqonayaa Beegdo. Markii ay bilaabo tababarka macalinkiisa wuxuu ku dhufanayaa meel xun macalin dhulka ayuu ku dhacayaa. Macalinka wuxuu dhahaa war aniga macalinkaaga ayaana ahay say wax kaa yihiin macalinka meesha ayuu ku suuxayaa. Kadib waxaa Shiin iyo asxaabteeda u imaanaya artiistaha sawir lahaa sawiro lagu qurxin rabo hoteelka. Shiin waxay u sheegaysaa inay u baahan yihiin sawiro in ciyoob loo sawiro oo waqtina uu ku yar yahay. Kadib waxaa arkaynaa Moon oo gaarigiisa wato waxaa soo wacaysa Daana markii uu qabto waxay ku dhahaysaa waxaan rabaa inaan wada hadalno intay joogtaa. asaga wuxuu ku dhahayaa aniga magaalada ma joogi waxaan u socdaa inaan madax soo degsado. Daana waxay weydiinaysaa magaaladee u socotaa Namyankuuj ma u socotaa mise Kyoto. asaga wuxuu ku dhahayaa waxaan aadayaa meel aadan adiga aqoonin oo aniga aa bartay sanado ka hor. Kadib wuu ku diminayaa gaarigan wuxuu ku darayaa xabaaro sare. Kadib habeenkii markii la gaaro waxaan arkaynaa Shiin oo diyaarinayso disaanka xafladda. Markay gadaal u soo jeesato waxay arkaysaa in ninacii Beegdo siiyey inay ka cuntay Hawaa. Waxay ku dhahaysaa maxaa kuu geey ninacayga. Hawaa waxay ku dhahay Shiin isdeji waxaan kaa cunin kaliya ninac lee waaye. ninacina way sii jabsanaysaa. Shiin iyadoo qaylinaysa ay agteeda u soo cararaysaa war ninacayga isii hayga sii dhammaynine. Ninac wayba sii dhammaysay kaliya waxa u soo haray qoriga ninaca ayagoo isbursanaayo ay ridda ka sii baxayaan. Intaas kadib Shiin waxaa soo wacay midkii jeclaa walaasheeda wuxuuna u sheegaya in Suu ay ka diiday hadiyad farantigii uu soo gaday. Shiin waxay ku dhahaysaa Suu inaysan waxyaabahaas aysan ka helin. asaga wuxuu dhahayaa ma jiraan wax kale ay jeceshahay Suu. Shiin waxay ku dhahay aniga maxaa ii weydiinaysaa waxyaabahaas. asaga wuxuu u sheegayaa inaysan sidaa ugu tegi karin waa in ay caawisaa haddii kale dhib ayaa ku imaanayo. haddii kale lacagteeda ii soo celi ama ii sheeg wax kale ay jeceshahay. Shiin waxay ku dhahaysaa Suu kaliya waxay jeceshahay hooyadeeda haddii aad u soo dhawaatid ayadana sidaa waa isku jeclaysiin kartaa. Intaas kadib waxaa nala tusayaa Shiin oo xiraysa nalka iyadoo fuulsan jalanjarada. waxaa meesha imaanaya Beegdo wuxuu ku dhahayaa ha soo degin kadib wuu xambaarayaa isagoo xambaarsan tartiib ayuu dhulka u dhigayaa. kadib waxaa message u soo diraya artiistaha wuxuu ku dhahaa aniga waan ka xumahay hadda kadib wax ma sii sawiri kari waan daalanahay. way soo cararaysaa iyadoo cararayso ayay imaanaysaa xafiiskiisa wayna ka weynaysaa. kadib waxay u imaanaysaa asagoo bariija hoostiisa wax ku sawiraayo. waxay dheh istaag waan wada hadlaynaa asagana wuu ka cararayaa. Shiin waxay siibanaysaa labadeeda kabood kadib way ka daba cararaysaa. siday cabaar isku bursanayaan sida Tom and Jerry camal waxay madax ugu dhufanaysaa kabteeda. asaga dhulka ayuu ku dhacayaa kadib waxay wada fadhiisanayaan dukaan hortiisa. wuxuu ku dhahayaa waa nacay sidaan wax u sawirayay haddana waan iska dhaafay shaqada wax sawiridda waan ka niyijabay shaqadan. Shiin waxay ku dhahayaa ka tegin shaqada aad jeceshahay waxaa laga yaabaa inaan gadaal aad ka shanlaysid. waxay ku dhahaysaa iska hilmaam waxaas aniga ayaa sawiranayo sawiradaas isla caawa. Shiin waxay sawiraysa sawir qurux badan. kadib waxaa arkaynaa Moon oo jiif sariirtiisa kadib xariibo u imaanayso Shiin. Moon wuxuu Shiin weydiinayaa sidee halkan ku timid oo ma iga cabsanaysid miya. Shiin waxay ku dhahay sababta aan kaa cabsanayo maxay tahay. kadib wuxuu qabanayaa labadeeda gacmood wuxuuna ku dhahayaa aniga kuma jeclide maxaariyadeeda ku keenay waaba ku necbahaybe. Shiin waxay ku dhahay waaba i jeceshahay ma ii sheegatid jaceylkaada oo ma kugu caawiyaa waxayna ka jeexaysaa shaatigiisa. subaxdii markii la gaaro Moon hurdada ayuu kusoo kacayaa. wuxuu ogaanayaa wixii xalay dhacay oo dhan inay ahayd riyo. wuxuu dhahaa maxay run u ahaan weysay riyadii xalay. wuxuu isku daboolayaa bustaha. kadib Moon wuxuu usoo laabanayaa hoteelka. Shiin waxay tusaysaa sawirada lasoo bandhigi doono xafladda. waxay dhahay sawiradan kabaran asaga wuxuu dhahayaa sawiradan way qurux badan yihiin. Shiin
waxay dhahayay caawa ma soo qayb galaa xafladda. Asaga wuxuu dhahaa balan waa balan waa imaan kartaa xafladda laakiin yaysan dhicin dhibaato. Kadib waxaa la gaarayaa habeenka xafladda. Moon wuxuu Yang ku dhahayaa Shin ilaa hadda ma imaanin maxaa ku dhacay. Yang wuxuu ku dhahaa waa taas way timid Shin. Shin waxay soo gashatay dhar qurux badan wayna qoslaysay. Moon sidoo u fiirinayo wuxuu isdhahayay aday ku imaanaysaa laakiin way agmaraysaa waxayna u tagaysaa Baekdo. Kadib Shin waxay geynaysaa meesha sawirada waxayna tusaysaa sawirada. Baekdo wuxuu ka helayaa sawirkii ay sawirtay Shin. Ayada waxay ku dhahaysaa sir makuu sheegaa sawirkan aniga ayaa sawiray. Asaga wuxuu dhahayaa aniga sir kale makuu sheegaa marka xigta anigana sawir qaas ii soo sawir. Kadib labadooda waxay ku soo laabanayaan xafladda. Waxaa arkaysa Daana saaxiibteeda Rana. Kadib way u wacaysaa Baekdo waxayna ku dhahaysaa wiilka caanka Baekdo adiga miya tan saaxiibtaada miya. Baekdo wuxuu dhahaa maya tan saaxiibteeda ma ahan kaliya inta ayaa ku kulannay waxay iga caawisay inaan inta xaflad ku dhigto. Rana waxay Shin ku dhahaysaa adiga waay miya warkaaga waa maqlay gabadhii inay taajir noqoto jeclaad miya. Daana waxay ku dhahaysaa haa iyada waaye oo maxaa diidayo. Kadib Rana waxay bilaabaysaa inay bahdishiin waxayna ku dhahaysaa haddii aad lacag u baahan tahay kaliya gurigeena imow shaqaale ayaan kaa dhiganayaa waxaan ku siinayaa lacag badan. Shin wuxuu ku dhahaysaa waa mahadsan tahay aniga shaqadeeda inta ayaan ku faraxsanahay shaqo kalena uma baahni. Rana waxay ku dhahaysaa saas miya orod ii keen cabitaan aan cabo. Kadib Shin iyadoo xanaaqsan ayay ka tegaysaa waxayna niyadda iska dhahaysaa sidaa rabtiin ii bahdila markaan Baekdo isguursano ayuu war nii yaalaa. Kadib Shin waxay u keenaysaa cabitaankii ay dalbatay Rana. Rana waxay dhahaysaa aniga shukulaato ninac kaama dalbanine waxay ku daadinaysaa cabitaanka. Shin iyadoo sii dhacaysa waxay sii qabsanaysaa Rana labadood dhulka ayay ku dhacayaan. Baekdo intoo Shin dhulka kicin lahaa Rana ayuu gacanta u soo taagayaa oo dhulka ayuu ku kicinayaa iyada. Baekdo wuxuu ku dhahayaa kaliya ku dheh nadiif dhulka ayadaa qaldaneed Shin marka hore. Shin waxay la yaabtay Baekdo waxaana ka soo haray indho waxaasoo dhan markay dhacayeen Moon kor ayuu fiirinayay. Kadib Baekdo wuxuu u soo taagayaa gacanta. Moon markuu arko in Baekdo uu Shin dhulka kicin rabo Moon wuxuu u soo socodboobsiinayaa dhinaca Baekdo gacanta ayaa laga dharbaaxayaa. Moon ayaa dhulka kicinaya Shin oo caawinayo. Daana markay aragto Moon iyo Shin oo gacanteeda horteeda iskaga haystaan waxaa ku kacay dhiigkarka dadka hortooda ayay ku dharbaaxaysaa Moon ayadoo xanaaqsan ay iskaga tegaysaa meesha. Kadib Moon wuxuu u siibayaa suudkiisa wuxuuna u gelinayaa Shin dadka hortooda ayuu gacanta ugu soo qabsanayaa wuxuuna keenayaa xafiiskiisa. Kadib wuxuu bilaabaya inuu canaanto Shin wuxuuna ku dhahayaa dadkaas maxaa iskaga celin weysay markay sidaan dhan ay ku bahdilayeen aniga waaba iskaga celisay ayaga maxaa iskaga celin weysay kaliya anigan kaliya ma ay adag tahay. Shin waxay ku dhahay markaan aniga ayaa qalad ka sameeyay aniga halkan waxaa ka ahay shaqaale kaliya. Moon wuxuu u sheegayaa haddii aad tahay shaqaale ayaga uma tihid aniga ayaa ii tahay sidee ram kuu qaylin karaan qof kaliya xaq u leh inuu ku qayliyo shaqaalihiisa waa aniga sidaas u fahan. Shin waxay ku dhahay waxaas inaysan dhicin ka soo qaad adiga sidee tahay daankaaga xalkiisa war iga sii. Moon wuxuu ku dhahayaa fiiri daankayga sidoo noqday waxaan u malaynayaa inuu hal ilig iga jabay xaalkayga ma ficno. Ayada waxay ku dhahay hadda waxaa laga yaabaa inay Daan xaalkeeda uusan ficnayn waa inaad u tagtaa. Moon asagoo sii bixiro wuxuu ku dhahayaa Shin run waaye Daan waa isku faraandi gelinay laakiin wax jecel ah nagama dhexeeyo kaliya waxaan ahay sida laba qof oo shuraaka ah adigana way ogtahay inaad shaqadeeda aan jecleen orod iska soo dhaq wax kugu daatay. Kadib wuxuu u imaanayaa Daana u sii socod gaarigeeda wuxuu ku dhahaa maxaa iigu dharbaaxday dadka hortooda aniga hore waan kuugu sheegay intaa imaanin haddii aad inta timaado mar walba aad timaado waxaa laga yaabaa inaa Shin aan ku sii dhawaado oo aan mar walba aan caawiyo. Daana waxay ku dhahaysaa waan kugu yeeray dharbaaxshada waxay ahayd inaad dadka hortooda kugu garaaco adiga sidaan dhan maxa iskugu bedeshay. Asagana wuxuu ku dhahaa waxaan ahay qof waalan qofka waan wuxuu rabo ayuu sameeyaa. Ayada waxay ku dhahaysaa haa sidaas ayaa loo baahan yahay kaliya waxaa kuu dhiman inaad dharka aad dhigatid. Moon wuxuu ku dhahayaa walaalay dhibkan iga kor qaad aan kaa nafiso raaxada dhan waa ii diiday aniga miin boomel aad kasoo gadatay suuqa. Daana hal mar ayaa waxay u qaylinaysaa maxa kaa galay waxayna raacaysaa gaarigeeda. Kadib waxaa arkaynaa Moon oo suuliga jooga waxa uu imaanaya Baekdo wuxuu ku dhahayaa maxaasaan dhan gabadhan ugu difaacaysaa Shin shaqaalaha kale maxay dheer tahay ama jeclaatay. Moon wuxuu ku dhahayaa haddii ayada i jeceshahay ama aniga aan jeclahay adiga shaqadaada ma ahan xafladaada ku laaban ee toos guriga u aad aniga iyo adiga isku mid manihiin waa kala duwannahay. Moon markuu baxo Baekdo wuxuu soo xasuusanayaa markuu faqiirka ahay inay ka tagtay gabadha uu jeclaa inay ka raacdin taajir ah wuxuuna dhaha lagama yaabo inaan mar labaad aan guul dareysto. Intaas kadib Shin waxay imaanaysaa Rana waxayna ka raaligelinaysaa wixii dhacay waxayna ku dhahaysaa maadaama aan xaflad aan kaa qasay oo dhar kaa helay aniga kuu soo dhaqaay. Rana waxay ku dhahaysaa waa lagu yaqaanaa dadka faqiiriinta inay markii ay qalad galaan waxay iska dhigaan dad masaakiin raaligelinta mar walba ay waajib ay ku tahay haddii xataa aadan wax qalad ah samaynin dadka faqiiriinta waa dad aan qiimo lahayn. Shin waxay ku dhahaysaa haddii aan ku raaligeliyo lagama yaabo inuu qiimihii hoos u dhaco. Rana waxay u sheegaysaa inay isdhiibto oo iskaga harto Baekdo haddii kale waxaa dhibaateyn doontaa naftaada ninna ma heli doontid. Shin meeshu iskaga tegaysaa iyadoo socod waxay niyadda iska dhahaysaa aniga waxaan u malaynayaa inay ii qornayn inaan la kulmo dadka fiican sidaa may ahaan doontaa nolosheeda ilaa aan ka dhimanayo. Midig iyo bidix haddaan fiiriyo kaliya waxaan arkaya guuldaradeyda aniga maxaa unsur ma ahay maxaa dhibkan oo dhan igu dhacayaan. Moon ayaa u imaana wuxuuna ku dhahayaa haye wax kale maa dhac ii sheeg. Ayadan waxay ku dhahaysaa kaliya waxaa ii dhimay inaan qarxo sidaan u qarinayo xanaaqayga. Moon wuxuu ku dhahayaa soo bax isoo raac wuxuuna ka qabanayaa gacanta. Ayadan waxay ku dhahaysaa maya adduunkan cadaalad ma taalo markaan dhashay ilaa hadda waxaan rabay inaan ku noolaado nolol wanaagsan sida dadka kale oo kale waxaa bilaabay inaan ku riyooyin waaweyn oo khiyaali aan rumooy weynin. Moon wuxuu ku dhahaa kawaran haddaan kugu caawiyo inaan bedesho noloshaada haddaa rabtid indhaha isku qabo. Shin waxay ku dhahaysaa Moon waa u fasaxan tahay wax walba aad rabtid waa samayn kartaa. Moon dadka hortooda ay ku shuminayaa Shin dadka xafladka soo qayb galay yaab indhataag ayaa kasoo haraayo kadib ayagoo gacmaha is haystaan ayay kasoo baxayaan hoteelka gacantiisa ay iska fujinaysaa waxayna ku dhahaysaa waa isbedeshay ee maxaa dhacay waxaa horey igu dhahday inaadan jeclin riyadeeda ee maxaa ii caawisa maanta. Asagana wuxuu ku dhahayaa aniga kuma necbi qof walba xaq u leeyahay inuu rumeeyo riyadiisa aniga taas lay kugu caabiyey. Ayadana waxay
ku dhahaysaa haa waa ku fahmay adiga aniga waxa ii aragtay qof maskiina sidaas darteed ay ugu naxariistamiya asaga wuxuu dhahaa adiga lama ii dhihino waxa rabta samay shiin waxa ku dhahaysaa haa waan ku dhahay laakiin sidaas dhan ii shumis ma ahayn haddana wax ma naga dhexeeyaan maxaa waay shumiskaas oo la isku mirbeelaayo muun waxa ku dhahaya aniga waxaa sidaas dhan u samaysin daacad ah waxaan ahaa qof xamaasadaysan had mar labaad ma ku celinaa shiin waa iska kala tuuraysaa walaalo iga tag hadda dadka hortooda u tagaa muun waxa ku dhahaya hadda dadka waxay ku arki doonaan inaad ku guulaystay qalbiga milkiilaha iska leh hoteelka ugu weyn magaaladan nimanka kale hadda waxay ku arki doonaan qof muhiim ah waxayna ku soo geli doonaan saf dheer shiin waxa ku dhahaysaa waxaas reelay waaye iga tag wayna ka tagaysaa kadib waxaa arkaynaa daana oo timi gurigeeda iyadoo xanaaqsan waxayna arkay labada bitaay ilma adeerada ahayn cuntada cunayn dad xabsiga dhexda soo daayay oo kale waxayna bilaabaysaa inay canaanato waxayna ku dhahaysaa aniga waa murgeysanahay adigna raashin aysan isku xaqiisin miya ayagana waxay dhahaan dhib ma lahan kaale in soo fadhiiso cuntadan asal cunne daana waxay u qeylinaysaa qof bur soo dumira camal ayagana waxay dhahaan xal ma ahno inaan soo ogaanaa wixii saanan ay daan ugu xanaaqsan tahay cunto cuno kaliya ah inaan inta u fadhino waa inaan howlgalnaa kadib shiin markay guriga timaado waxay arkaysaa suukii jeclaa guriga jooga wuxuuna iska dhigaa qof aan aqaanin wuxuuna ku dhahay iskay baro aniga waxaan noqon doonaa dumaashigaaga mustaqbalka suuq hooyadan wuxuu u keenay hadiyad badan si uu iskaga gado duqda subaxdii marka la gaaro waxaa arkaynaa muun oo jooga meesha tababarka macalinkiis ayaa wuxuu ku qabanayaa qorsagaaro wuxuuna ku dhahay ii sheeg labadan biri maxaa ku haayo oo kaa qaldan haddii kalmkaa fuqaayey muun wuxuu ku dhahayaa macalinkiisa waxaa jira gabar aan jeclahay haddana ma jeceli macalinkuu la yaabaya wuxuuna ku dhahayaa yaa maxaa gabar la qabo maa jecesha adiga muun wuxuu ku dhahayaa maya lama qabo laakiin gabadhaas waxay u eg tahay hooyadeeda iyo shiin waxay iskaga geeyeen dhinaca lacag jeceelka hooyada waxay abeey iskaga furtay si ay lacag badan u yeelato oo yaryarada u rumayso shiina waa sidaas oo kale waxay jeceshaa inay noqoto amiir sandareela kadib waxaa arkaynaa shiin oo geesaa iska fiirinayso si aysan isku arkin muun ayaa kor imaanaya isagana wuxuu bilaabaya inuu iska sii boojay iyada muun wuxuu ku dhahaya hay salaama jirta miya maanta maxaa weli miga xanaaqsan tahay shiin waxay ku dhahaysaa maya adiga maxaa kaaga xanaaqaya kadib anila isku xanaaqsan asagana wuxuu ku dhahaya wixii xalay dhacay iska hilmaam aniga waxyaabahaas ma daneeyey waaba ilaayo mar hore shiin waxay ku dhahaysaa muun aniga xataa sidoo kale waxyaabahaas ma daneeyey waa wax laga soo tagay mar hore ay ka remove gareey maskaxdayda aniga nolosheeda kaliya ku mashquulsana waxaas agteeda wax kama ahan waxay u sheegaysaa in xalay intuusan shumin ka hor ay soo cuntay tixribadeed aad u macaan asagana wuxuu ku dhahayaa maxaa soo cuntay igu cilin kuma maqline shiin waxay ku dhahaysaa haa wuxuu ahaa cunto aad u macaan kadibna iskaga tagaysaa muun yaab ayaa kasoo haray wuxuu bilaabay inuu shakiyo afkiisa ayuu tataabanaya wuxuuna dhahaa tan ama afka balaayo ii soo bixisaa leh kadib waxaa arkaynaa shiin oo shaqadeeda ku jirta waxa uu imaanaya beegdo shiin wuxuu ku dhahaysaa hay mudan soo dhawow waxaa cabaysaa cabitaan ama rabtaa mise shaah ayaan kuu shubaa asagan wuxuu ku dhahaya waxaan rabaa inaan kula hadlo kadib shiin waxay isku shubaysaa shaahi ay fisay beegdo wuxuu u soo gelayaa meeshii ay ku jirtay shiin wuxuuna gacanta ka saarayaa baraf wuxuuna ku dhahayaa gacantaas saa'id ay u gaduudatay kadib wuxuu weydiinaya adiga muun maxaa idinka dhexeeyo ama uu qasbaayay ninkaas anigu uma begine ayadan waxay ku dhahaysaa waxaas wax kama jiraan kaliya waa maamulihii shaqada waxaa laga yaabaa inuu xal saa'id u soo cabay sidaas darteed ayayna waxaas u dhaceen asaga markuu cabsan yahay wax ka fakada ma lahan xataa wuxuu shumiyaa baalaha korontada waxa ark ma dhaafo lo xataa iri hadduu ark bas waaye shiin been ay u tiraarxinaysaa beegdo asagan wuxuu ku dhahayaa saas waay miya aniga waxaa rabaa inaan si fiican isku barano waxaan rabaa inaan kugu casuum istuudiya khaaska inta isha ayaa ku badan shiin waxay ku dhahaysaa maxaa waaye sababtaan u kulmayno istuudiya khaaska beegdo wuxuu ku dhahaa shiin waxaa rabaa inaan ku tuso wax khaas ah kadib wuxuu soo bixinayaa been wuxuuna u surayaa tinteeda kadib markii uu shiin ka soo tago waxaa ka hor imaanayo muun beegdo wuxuu ku dhahayaa muun hadda ay ciyaarta surun ah noogu bilaabatay muun wuxuu ku dhahayaa okay waay noo bilaaw aan ku raaxaysan doonaa ciyaartaas asagana wuxuu ku dhahayaa mar kale ha ku celin wixii xala aad samaysay muun wuxuu ku dhahayaa adiga yaa tahay markaa waxaan samaynaa aan fasax kaaga qaadanayo beegdo wuxuu ku dhahayaa keliya sug oo arag waxaan ku bari doonaa waxaan awooda aniga kadib waxaa arkaynaa shiin oo iska fikiraysa waxa uu imaanaya saaxiibkeeda wuxuu ku dhahayaa maxaa kaa qaldan oo ka fikiraysa ayadan waxay dhahay maxaa ka fikiri lahaa asagana wuxuu ku dhahayaa adi fiiri uma jeed miya sidoo kuu jecel yahay muun hal tal ayaan ku siinaya waa inaad tijaabisaa inuu ku jecel yahay iyo inuusan ku jeclayn muun kadib shiin waxay u imaanaysaa muun waxayna tusaysaa biinkii u keenay beegdo si ay ugu masiirsiiso waxay kaloo sheegaysaa inay beegdo u ka casuumay istuudis khaaska ayna aadayso beri asaga markuu maqlo hal mar ayuu soo boodaya wuxuuna ku dhahayaa muxuu kugu wacay istuudis khaaska muxuu kaa rabaa shiin waxay ku dhahaya ma ogi laakiin adiga soo maraban sidaas horta inta aanan aadin asaga waxaan rabaa inaa wax kaa ogaado kadibna dhinaciisa ayay u soo dhawaanaysaa waxayna ku dhahaysaa wixii hore waxa ayan wax kadis ah hadda waa inaa si fiican u samaynaa haddaa rabtid indhaha isku qabo markay u soo dhawaato wuxuu niyadda ka dhahaa maya waxa inay dhacaan ma ahan waa inaa is adkeeya hal mar ayuu boodaya wuxuuna ku dhahaa walaalay iga siko meeshaa rabta aad aniga wax igama gelin shiin waxay ku dhahaysaa oo saas maa rabti inaa aada beegdo asagan wuxuu ku dhahaa waa inaa aadaa haddaad dharka ku aadi lahayd anigaa kugu caawinaayo kadib wuxuu keenayaa dukaanka dharka lagu gado wuxuuna ku dhahayaa dharkaa rabti soo qaado wixii qarash ah waa dhinacayga shiin sidii cabaal iskuu fiirinaysay wixii dhar meesha yaalay muun wuxuu usoo qabanaya dhar qurux badan wuxuuna ku dhahayaa waxaas dhar ma ahan kuwaan qaado waa isteelkii u dambeeyey kadib shiin waxay imaanaysaa beegdoo gurigiisa beegdoona wuxuu ku dhahayaa waxaan kuu diyaari cunto aad u macaan markoowaad waa inaa wada cunteenaa kadib waxay wada fidhiisanayaan miiska cuntada ayadan waxay weydiinaysaa maxay tahay sababta igu casuumtay istuudiyaha khaaska asagana wuxuu ku dhahayaa keliya waxaan u baahnaa inaan waqti wada qaadano labadeena waxaa kaloo u baahnaa inaan wada shaqeyno kadib wuu istaagaya wuxuuna soo qabanayaa buug wuxuuna ku dhahayaa waxaan u baahnaa inaan wada shaqeyno adiga keliya ii soo qor sheeko filin iyo sabir oo isla socdaan waxaan ka samayn doonaa filim kartoon ah ayadan waxay ku dhahay ani waxaas khibrad uma lihi keliya sabirada inaan iska sabir lay jeclahay beegdo wuxuu ku dhahaa taas dhib ma lahan keliya bilow waxaa jeceshahay aniga waan kugu caawin doonaa shiin waxay ku dhahaysaa haa runtaa waaye muun xataa sidaas ayuu idhahay follow your enjoy asaga hal mar ayuu xanaaqaya wuxuuna soo jiidaya kursigeeda wuxuuna ku dhahayaa aniga kula joogo ninkaas warkiisa ay igu soo qaadin markaa ninkaas warkiisa maqlo aniga isfiilitada ay igu kacdo adiga ma ogid miya inaan ku jeclahay kadib uu soo dhawaanaya isoo shumirow hal mar shiin ayaa boodayso waxay ku dhahaysaa maya walaalo aniga holaas diyaar
uma ihi kadib waxaa gadaashooda kasoo baxaya beegdoo walaalkiisa hal mar ayay isku naxaysaa shiin beegdoo wax ku dhaha walaalkiisa inta maxaa ka samaynaysaa lacagtii aan ku siiyo ma kugu filnaaweysa iyo ma soo dhammaysay aniga mar hore waan kuu sheegay lacagtaas waa tii ugu dambaysa aan ku siiyo kadib wuxuu isku daya inuu banaanka u bixiyo walaalkiis wuxuu bilaabaya inuu kashifo oo wax walba u sheego shiin wuxuu ku dhaha ninkan inuu yahay nin tuug oo been badan waqti dheer ayuu been kuu sheegayay ninkan wax walba uu sameeyo uma u toosaan waa nin aad u nasiib xun oo dadka xada fikradahooda waa koobi ku nool wax walba uu sameeyo wuxuu u malaya inay dadka jeclaanayaan buug ayuu usoo bixinayaa wuxuuna ka dhahayaa akhri buugan oo asaga qoray wax walba uu yahay waa ogaanaysaa lacagtan xataa wuxuu ku helay wuxuu sameeyey waxyaalo fulxun nafsadiisa xataa wuxuu ugu sheekaya inuu yahay directorka ugu fiican laakiin ma ahan waa faataalo xun shiin waxaas dhan markay maqasho waxay u sheegaysaa beegdoo walaalkiisa walaalka wuxuu buugan u qoray si daacad ah laakiin waxaa rabtaa walaalka lacagtiisa inaa beeben iskaaga cuntid beegdoo wuxuu dadaal ku bixiyey siduu naftiisa u bedeli lahaa laakiin waxaa uga dhigtay buugan inaad ku rikaadaysid oo lacag ugu qaadatid waxaasna wax wanaagsan ma ahan beegdoo wuxuu walaalkiis ku dhahayaa walaalow meeshan iskaaga tag waxay sheegi karta waaba sheegtee walaalkiis markuu baxo beegdoo wuu raaligelinayaa shiin wuxuu ku dhaha uu sheegin wixii inta ku aragtay muun haddii ay dadkii ogaadaan way igu qosli doonaan shiin waxay ku dhahaysaa aniga qof muu sheegay keliya waxaa u baahan tahay inaad naftaada aad ku kalsoonaatid oo adiga aad is aamintid waxayna u soo qabanaysaa buuggiisa waa inaad ku fahantaa waxaa qortay wayna ka tegaysaa muun oo soo dabagalay wuxuuna ku sugayay banaanka markay banaanku soo baxday muun wuxuu ka wacayaa taleefanka ayadan siida ay u taabanaysaa maalintii xigtay muun wuxuu imaanayaa hoteelka waqti hore isagaa kasoo hormaraya shaqaalaha hoteelka oo dhan muun wuxuu rab inuu ogaado wixii ku dhacay shiin markay timaado hoteelka way agmaraysaa waxayna iska dhigaysaa inaysan arkin muun kadib waxaa arkaynaa labadii la dhashay daana oo banaanku sugayeen shiin si ay u afduubtaan waxayna dhahayaan tan ma soo baxayso maxaa ku dhacay maanta kadib waxay soo galayaan gudaha hoteelka ayagoo iska dhigaya nin inaaga isqabo si ay u ogaada inay shiin joogto weli ama inay baxday kadib waxaa qabanaya yaank wuxuuna ku dhahaya hayey maxaa rabtiin oo niiga caawiya asaga wuxuu ku dhaha qoftan xaaskayga xaamilana waayo waxay u baahan tahay suuliga ayagoo wada hadlaya waxaa meesha soo maraysa shiin markay arkaan shiin labadooda banaanka ayuu soo baxayaan shiin markay shaqadeeda soo dhammaysto ayadoo taleefanka iskaaga hadlayso waxaa wadada u galayaan labadii ayadan waxay weydiinaysaa hayey maxaa iga rabtiin wadada iyo baneeya ayagana waxay dhahayan anaga waxaa dadka safiya ugu sameynaa masaajka keliya soo rac gaarigaas si aan kuugu sameyno shiin waxay ku dhahay war idinka masaajkiin iyo aabiin ma aqaaniya wadadan iyo baneeya labadooda waxay dhahayan war qoftan saa wax mu fahmaysa aan soo qabano ayagoo sii jiidaya shiin waxay soo baxsanaysaa sunta indhaha dadka loogu buufiyo shiin dabaalnimadeeda intay ayaga indhaha ugu shubi lahayd ayadaa iskaaga buufinaysa indhaha kadib waxay qabanayaan labada gacmood ayagoo kor u ahaa ee gaariga saarayaan kadib waxaa arkaynaa shiin saaxiibteeda oo ku sugayso maqaayadda markay soo daahdo waxay dareemaysaa inay wax qaldan yihiin maadaama saaxiibteeda isaad u soo daahday waxay imaanaysaa hoteelka si ay u ogaato wixii ku dhacay shiin waxayna meesha ku arkaysaa muun waxayna u sheegaysaa in shiin ay ku ballansanaayeen baarka aysan u imaaneen maxaa ku dhacay gabadha asaga wuxuu ku dhahay aniga maxaa ka ogahay wixii ku dhacay ayada mar hore ay soo baxday labadii shiin waxay geenayaan meel cidla ah waxayna ka xirayaan shiin labada gacmood shiin waxay furanayaan afka waxayna ku dhahay war aniga faqiir ayaan ahay lacag ciddeeda ma hayaan haddaa rabtiin keliyaha waa iga baxsan kartiin xataa keliyahey xataa ma fiicin qamar badan ayaan cabaa aniga jirkeyga meel ka fiican ma lahan walaalayaalow iskakay fasaxa ayagan waxay ku dhahay aniga waxaan rabnaa inaan u aarno walaasheena maadaama ag herweys ninka ay jecleen ayaga markay baxaan shiin waxay bilaabaysaa inay la hadasho siiri waxay ku dhahaysaa oo ku baryaa siiri ii wac booliiska siiri intay u wicleed booliiska waxay u wacaysaa saaxiibteeda oo la fadhisa muun waxay ku dhahaysaa iga soo gaara waa ilay afduubtay muun wuxuu ku dhaha meeshaa joogta miyay tilmaami kartaa ayadan waxay ku dhahay waxaan joogaa meel cidla ah aan aqoonin kadib muun asoo miirlayn ayuu gaariga soo qaadanaya gaarin wuxuu ku wada xawaara aan caadi ahayn kadib markii ay soo laaftaan daan labadii la dhashay shiin waxay ku dhahayaan war adigoo saan u foolxun maakaaliweela ana walaashin ninkay jeceshahay war walaashin sida u qurxantahay ma aragtid miya war xataa waxay gash qaliin badan sida aad saa'id ugu qurxanaato shiin waxay ku dhahaysaa war ninkaas maa soo afduubatiin an maskiin ayaan iska ahay ma iga qalaysiin maanta ayaga waxay ku dhahayaan taas ma awoodin daanaan dilayso waxay ku dhahayaan timaha kaa xireyna ama noo saxiix warqadan ashaqada uu tegaysid kadib waxaa irid laad kusoo furaayo muun wuxuuna bilaabaya inuu garaaco labadooda wuxuuna u garaacaya maxaa kaa galay markuu labadooda kasoo dhamaado wuxuu usoo cararaya dhinaca shiin wuxuuna gelinaya laabtiisa dhahaya saa'id ayaan kaaga welwel sidee tahay shiin waxay ku dhahaysaa marka hore xarig iga fur marka iga furaysidna ha iga jarin si tartiiba iga fur wax ayaan ku samaysan rabaa xarigga kadib xarigga waxay ku xiraysaa labadii soo afduubatay waxay muun ku dhahayaan seediyo maa naga qalaysid xaafadda ayaan ku wada hadlaynaa askartiyaa nala wicin horta gabadhan foosh xun maxaa ugu qiyaanta walaasheena daana shiin intay yaabta ayay weydiinaya muun horta aniga maa fool xun muun madax ayuu lulaxa wuxuu dhaha maya 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 adiga qurxan tahay shiin waxay u sheegaysaa inaysan askarta wicinin laakiin waxaa idin dhigi doona cashir lama ilaawaan ah kadib waxay soo qabsanaysaa makiinad timaha lagu xiiro waxayna ku dhahaysaa anigaa foolximo igu tilmaamteen soo ma ahan anigaa shaqadiina aqaano ayagoo qaylina ay ka xiiraysaa sunniyaha kadib waxay ka qaadanaysaa sawiro ayagoo eg diiq biyo ku dhex dhacay camal markay banaanku soo baxaan shiin waxay bilaabaysaa inay ku ciil baxdo muun waxay ku dhahaysaa waxaan adaa sabab u ah in meeshaan lay keeno waxayna ku dhufanaysaa labadoo feer kadib wuxuu keenayaa gurigeeda iyadoo sii socota wuxuu ku dhahaa naftaadii ilaali guri nabad ku tag markay guriga soo gasho waxaaba sugayan ciddoo dhan habaa waxay ku dhahaysaa waa maqalnay goo inuu lacag ku siiyey oo aad u sheegtay wax walba ay jeceshahay suu aniga waaba aaminin la ah inaad ka gadatay suu nin noocaas oo kale oo belowga ah dartaada ayaa waxaan u malaynaya inuu jecel yahay suu shiin waxay ku dhahaysaa aniga laakiin qof fiican ayuu iila ekaa oo suu jecel aniga xumaan kuma arkin ayada waxay ku dhahaysaa sidaas darteed ay u gadatay miya adiga waxaa tahay qof madax adag keliya waxaa fiirsataa dantaada shiin waxay ku dhahaysaa horta idinkan ka fikirteen inaa familkan ka tirsanaya in kale sidaa darteed aniga familka kama tirsani oo ma tihin familkayga runta ah eedada waxay ku dhahaysaa waxaan u malaynaya inaa si qaldan aan kuu soo korinay shiin waxay ku dhahaysaa haa si qaldan ayay soo korisay habaa ayaa waxay ku dhufanaysaa dharbaaxsho waxayna ku dhahaysaa adiga waaba kasoo dartay guri inooga tag shiin waxay kasoo tagtay guriga waxayna soo qaadatay boorsadeeda waxayna imaanaysaa gurigoodii hore oo meel cidlo ku yaalo dhinaca kale waxaa arkaynaa muuna u yimaaday daana gurigeeda wuxuuna ku dhahaa shiin ayaa usoo dirtay sooma ahan labadii bac ee kula dhashay ayadan daana waxay iska dhigaysaa inay
ayada soo dirta camal waxayna ku leedahay haa waan soo diray aniga ciddeeda waa taqaanaa sidaan lee waaye haddaa stress igu furtid adigna mid ka dan ayay kugu furayaan muun waxa uu sheegayaa daana haddii aad mar kale isku daydid inaad dhibaataysishiin si fudud kuuma dhaafi dooni adigana waa kuu dhammayn doonaa cimrigaabad ayaa ku keenaya markuu ka taga muun daana iyadoo xanaaqsan waxay sugaysaa labadii baac waxayna weydiinaysaa ani rooti maa niya dirsada mise inaad shiin soo afduubatiin iyadoo qaylinaysa waxay ku dhahaysaa isii rootiga markay ka qaadato waxay fiirinaysaa dheedka rootiga waxayna arkaysaa in rootigan isbuuc ka hor inuu dhacay waxayna kusoo tuuraysaa rootiga waxayna ku dhahaysaa war igtaga balaayo madax waaweyn labadooduna way ka cararayaan markii subaxdii la gaarshiin way soo kacaysaa iyadoo qabow haayo markay furto biyaha tubada meesha biyimaba ka socdaan kadib waxay isku fiirinaysaa miraayadda waxayna isdhahay hadda saamaa shaqada ku aadi rabaa anoo xataa wejiga aan iska dhaqin kadib shiin iyadoo cararays ayay imaanaysaa hoteelka markay gudaha soo gasho waxay arkaysaa muun oo tababar siinaya shaqaalaha hoteelka si haddii lasoo weeraro si ay isku difaacaan muun wuxuu shiin weydiinaya maxaa kugu dhaco lasoo daada maanta shiin waxay ku dhahaysaa guri kale ayaa u guuray asaga wuxuu ku dhahayaa xalalay maku geyno gurigan kale inta ku yaala wax kugu dhac ii sheeg shiin markay isboojayso wuxuu ku dhahaa dharka soo xiro tababar ayaan ku siinaya markuu tababarka bilaado muun wuxuu ku dhahaa kaalay dhabarkayga qabso markay qabsato wuxuu ugu dhufanayaa feer garabka agtiisa ayadan dhulka ayay ku dhacaysaa ayadana waxay ku dhahaysaa waan faham tababarka adigan kaale toogtaada aan kugu baroobay markuu dhexda ka qabsado isagana meeshuu ku dhufta ayay ku dhufanaysaa kadib dhulka ayuu ku dhacayaa isagana ayagoo tababarka sii bataan waxaa imaanaya beegdo wuxuuna ku dhahayaa shiin waxa intuu imaad inaan ku arko si ugu maseersiyo muun wuxuu ku dhahayaa shiin xalay si fiican ayaa u baashaalnay muun markuu hadalkaas maqlayaabaa ka soo haray kadib wuxuu ku dhahayaa waxaan rabaa inaan kula hadlay soo bax kadib way wad fadhiisanayaan wuxuuna ku dhahayaa waxaa shalay i dhahday waan qaatay adiga gabar fiican ayaa tahay waxaan rabaa inaa i soo raacdid oo ila shaqaysid wuxuuna usoo bixinayaa buug wuxuuna sheegaya ilaa hadda heshiiskii inuu diyaar la yahay shiin markay shaqada usoo dhammaato waxaa soo wadaya muun si uu u arko meeshii cusub ay degtay shiin kadib waxay keenaysaa gurigeeda asagana wuxuu ku dhahayaa maxaa waaye meeshan waxay u eg tahay bay buushish ku yaal weydow meesha amay ku soo duntaa kan guri ma ahane kadib waxay wada karsanayaan cuntada ay iska wada cunaayeen maba ka khasnaba labadooda shiin waxay ugu sheekaynaysaa inta ayada iyo aabaheeda inay degnaan jireen sidaa camal ayaan wax wada karsan jirnay laakiin asagoo yar ayuu dhintay markii aan inta ka tagnay oo aan guriga eedda aadnay ayay wax walba isbedeleen kadib waxaa soo da-ay baraf saa'id u badan dhinaca kale waxaa arkaynaa habaa oo soo qabta kii beenlooga ahay waxayna ku dhahaysaa maanta saa'id ayanu faraxsanahay waxaa fursad u helay inaa qof aan garaaco waxayna caloosha ugu dhufanaysaa hal feero kuleel ah kadib wuxuu sheegayaa inay shiin aysan waxaan shaqo ku lahayn keliya aniga ayaa weydiisay inay caawiso ayada waxay dhahdaa haddii waxaan la ogaado dadku way iga xanaaqayaan waxaan dhan waxay u samaysay si ay u hesho suu qof jecel oo ayada ka taxadarayo ayadana qalad kuma lahan anigoo jecelkii waalay habaa waxay ku dhahaysaa lacagtaada lagu soo celin doonaa eenaga dabahir adig qof unsuraa tahe shiinii muun waxaa meeshu qabsaday qabow saa'id u badan ayadan waxay dhahaysaa inta soo gal bustaan aa wada kugsane kadib waxaa labadooda teleefonku soo dhacay deganiino oo ah inay soo socdaan dabeel iyo baraf fara badan inuu di'i rabo ayada waxay ku dhahaysaa walaalow maa meesha naga wadid waaba ujeedaa inay duufaan soo socotay isaga waxa uu sawirmaya asoo baraf wada noqday oo meeshu ku dhimanayo isagoo naxsan ayuu hal mar orod jabsanaya wuxuu ku dhahaa shiinna soobad meeshaan balaayaa ka soo socotay gurigeena aadanaya soo bax walaalay markay guriga yimaadaan shiin waxay ku dhahaysaa waxaan u baahanahay inaad soo qabaysto maanta hal mar xataa biyima isku shubin kadib shiin waxay imaanaysaa suuliga iyadoo ku dhex jirto baafka qabayska hal mar waxaa daadanaya biyaha waxayna weynaysaa meel ay ka xirto kadib waxay wacaysaa muun kadib muun asagoo indhaa haysto ayuu soo gelayaa suuliga kadib muun wuxuu joojinayaa biyaha daadanayay shiin hal mar ayuu soo dhawaanaysaa waxayna ku dhahaysaa inta leemaeed meesha laga xiraya biyaha kadib ayagoo isfiirinayo waxaa lugta u baxaysa muun waxayna ku wada dhacayaan dhulka shiin waxay u shuminaysaa muun si qaldan aysan filaynin muun waxaa wariyoonaya maalin caddey asagoo sii shuminaya shiin ayuu sii niyeystay ayagoo isku talax tagayaan labadooda kadib xasuusta ayaa usoo laabanayso waxayna ka kicinaysaa dhulka isagana wuxuu ku dhahayaa maya keliga waa kici karaa kadib shiin waxaa soo bacaysa habaa waxayna u sheegaysaa in la kariyo cuntadii ay jecleed ee guriga kusoo laabay aysan kaa dhammaanin muun wuxuu umaleeyaa shiin inuu soo bacay beegdo shiin waxay ku dhahaysaa waxaa rabaa inaa baxo muun asagoo yaaban wuxuu weydiinayaa shiin saaca intay u socotaa ayadoo sii bixi rabto wuxuu ka furayaa maradii ay wadatay wuxuu ku dhahayaa saacan ha aadin beegdo ninkaas nin fiican ma ahan qof ajnabi ka ay gurigii saac inay aadid ma ahan ayada waxay ku dhahaysaa oo adiga maxaa tahay marka adiga ajnabiga iga tahay maxaa aabbeegi ma isku malaysaa walaalow maradeeda ka fuq maxaa adiga ma ikufsan rabtaa markuu ka fuq kadib wuxuu xirayaa maradeeda kadib shiin waxay usoo laabanaysaa guriga waxayna arkaysaa suu iyo habaa waa cabay wixii guriga cabitaan yaalay habaa waxay duud ku waday suu kadib eedada imaanayso markay wada fadhiistaan shiin waxay usoo bixinaysaa sawir aabaheeda markuu yaraa eedada waxay ku dhahaysaa shiin maanta waa inaan uda hadalnaa si daacad ah anaga ha u fikirin aanan ahayn familkaada wax walba hadduu dhaco anaga waxaan ahaan doonaa familkaada waxa kale niyadaada ka saar shiin waxay ku dhahaysaa waan ogahay waxyaaba xun way dhacaan haddana igaraal noqo kadib suu iyo habaa ay imaanayaan shiin way raalgelinaysaa suu waxayna ku dhahaysaa inaysan wax isku bedelayaan ku fikiraynin suuna waxay ku dhahaysaa dhib ma lahan qofka bini'aadanka qalad wuu ka dhacaa haddana aniga waa faraxsanahay maalintii xigtay beegdo wuxuu imaanayaa hoteelka iyadoo la socoto naag kale wuxuuna barayaa shiin wuxuuna u sheegaya in qoftan lagu magacaabo liili waxaana dhihi kartaa mother of films ayadaa looga haray filmaanta kuuriyaanka inay soo saarto kadib waxaa arkaynaa muun iyo shaqaalaha kale u dabaaldegayaan krismaska sanadka cusub muun wuxuu fiirinaya shiin oo saad u faraxsan daana gadaal ayay ka fiirinaysa asaga waxay niyadii iska dhahaysaa war madaxweynka anima ii jeeda miya gabadhan muxuu ku arkay muun wuxuu furayaa mid ka mid ah warqadaha baqtiyo nasiibka markuu arko wax meesha ku qoran asagoo qararna waxaa arkayaan kadib yaang wuxuu gadafayaa warqadda wuxuuna aqrinayaa warqadna waxaa ku qornayd inuu guursan doono muun mardhow muun warqadda ayuu ka dafayaa kadib meesha ayuu iskaga tegayaa kadib waxaa arkaynaa daana oo ku mashquulsan shiin oo shaqadeeda iska haysato kadib waxa uu imaanaysa raana waxay wacaysaa shiin waxayna ku dhahaysaa ilaa hadda ma sii joogtaa meeshan kadib waxay soo qabanaysaa jalmada shaaha waxayna ku shubaysaa dhulka waxayna ku dhahaysaa i fiirinaya meeshan tirtir shiin ma
iska waalayso waxay ku dhahaysaa haye dhib ma lahan haddaa tirtiraa kadib shiin waxay soo qaadanaysaa tirtiraha dhulka lagu tirtiro iyadoo tirtirayso haddana mar labaad ayay ku shubaysaa tirtiraha korkiisa waxayna ku dhahaysaa riyadan beenta aa leedahay William kurumooweyso Beegdo iyo Moon mid kamid ah weligaa ma helaysid ereyada ka kac adiga keliya waxaa tahay shaqaale xun oo cagabooray ah shiin intay iscelin weyso waxaa ku kacaysa sokortii cusbada waxayna u siibanaysaa bir tirtiraha waxayna ku dhahaysaa haddaa inta kugu dila kabaran saabirtan kugu garaacayo shiin iyadoo ku dhufan rabto raana orod ayay jabsanaysaa waxayna gelaysaa Beegdo gadaashiisa Beegdo waxay ku dhahaysaa Beegdo qoftaan waa iga celi asagana wuxuu isku fujinayaa gacantiisa wuxuuna u sheegay haddii uu macaamiil qof waalan yahay maxaa diida inay shaqaalada waashtaan dadka inta shaqeeya waa inay nabad kaa helaan shiina ma kusii jirtoba waa qof aan jeclahay nabad ha kaa hesho markuu saas dhaho dadka meesha joogay oo dhan hal mar yaab afka ayay la qabsanayaan Moon gadaal ayuu taagnaay asagoo maseersan oo qoftiisa laga kor qaadi rabo kadib waxaa arkaynaa Moon oo jooga suuliga waxa uu imaanaya Beegdo wuxuu u sheegayaa Moon in shiin dadka hortooda ugu sheegtay jaceylka uu qabo maxaa sameyn doontaa kaliya waxa kuu banaan inay iska gursidaana aniga shiin waxa uu ilaalsan doonaa sida miyaaradda oo kale Moon asagoo xanaaqsan wuxuu ku dhahayaa horta naftaada la ilaalso kadib leewaay shiin kadib wuxuu qabanayaa hal fiir sida isku garaacayaan ayay banaanka iskula soo baxayaan Beegdo asoo naxsan ayuu hal mar ord jabsanaya Moon ayaa mar kale soo qabanayo ayagoo isku dhagan waxaa arkayaan Lily iyo Shiin labadooda hal mar ayay soo ordayaan waxayna ku kala dhufanayaan madaxa Moon asoo ooyin wuxuu ku dhahayaa Shiin maxaa haddan anima ayuu ka keentay ayadoo waxay ku dhahaysaa kaliya waxaa sameeyay cadaalad sidaas darteed ay madax kuugu dhuftay kadib waxay wada tagayaan xafiiska Moon ilaa hadda jugta lagu dhuftay ayuu ka naxsanaa kadib Shiin wuxuu ku dhahayaa horta aniga maxay igu danaani weysay aniga ah maamulahaaga oo lacagta mishaar ku siiyo ayadoo waxay ku dhahaysaa aniga kaliya waxaa sameeyay waxay ahayd wax saxan Beegdo sidaas inaa ula dhaqantay ma ahayn Moon wuxuu ku dhahayaa ilaa hadda maaba ninkaas iga sii heelinaysaa kadib markii Shiin soo dhameystay shaqadeeda oo u socod gurigeeda waxaa ka hor imaanaya Beegdo iyo Lily oo gaari wada saaran kadib wuxuu ku dhahayaa maanta wixii dhacay waa ka xumahay mana soo raaci kartaa waxaan rabaa inaan cabitaan soo wada cabnay kadib waxay imaanayaan guriga Beegdo bahasha uu isku daldalay iyobna iska seexday Lily iyo Shiin sidii cabaar uda sheekaysanayeen Lily waxay u sheegaysaa inuu Moon uu yahay wiilkeeda isagoo yarna waa ka tagay waxaa la riyadaada oo kale markaan ka soo tagay kadib waan u laabtay waxaan rabay inaan soo bato wiilkayga laakiin Moon ayadiis ayaa ii diiday waxayna ugu tilmaamtay in ay qof xun Shiin waxay ku dhahaysaa laakiin hadda maxaa uu tagi weysay hadda waxaa tahay qof taajir ah oo wax walba haysto Lily waxay ku dhahaysaa haa wax walba waan haystaa laakiin farxad kuma haysti waxaan u malaynayaa inaa kasoo dahay wiilkayga Moon kadib markii subaxdii la gaaro Moon wuxuu imaanayaa shaqada kadib Shiin ayaa kusoo ordaysa waxayna ku dhahaysaa mudana soo dhawaaw waxayna u saaraysaa salaan Moon asagoo yaaban wuxuu ku dhahayaa maanta maxaa kaa qaldan mushaarka in lagu hormaray maarata Moon oo la yaabana wax ka qaldanaa Shiin asagoo la yaaban waxay samaynaysa wuxuu ku dhahayaa maanta maxaa kaa qaldan ma ii sheegi kartaa ayada waxay ku dhahaysaa waxaa u baahana inaan wada casheeno maqaayad khatar ayaa noo hayaa kadib waxaa arkaynaa suu oo joogta isbitaalka waxay maqlaysaa kalkaalayaasha iyadoo xamanayaan oo dhahayaan qoftaa midaa ku waashtay ma iska aqbashi jaceylkiisa kadib waxa uu soo dirayaa message oo ah inuu kor ku sugoyo ayna ugu timaado kadib markay timaado waxay arkaysaa kiyo u wax u wado wuxuu fadhiisanayaa dhulka wuxuuna ku dhahayaa ma iga aqbalaysaa inaan ku guursado ayada waxay ku dhahaysaa ani aad camalka ma heli waxaan jeclahay nimanka raabarka ah haddaa raabar aaleed waan kaa aqbali lahaa arooska isaga wuxuu ku dhahayaa aniga raabar waaba ahaan jiray wuxuuna ugu tuuraya hal heesoo waali ah ayada heesta xamaasadeed ayaa qaadayso wayna ka daba qaadaysaa markay heesta dhammaato suway ka aqbalaysaa arooska kadib hab ayay is siinayaan kadib Shiin waxay keenaysaa Moon maqaayadda ayagoo wada fadhiyan waxaa imaanaysa Lily kadib Shiin waxay ka kacaysaa kursiga iyadoo sii bixi rabto Moon wuxuu weydiinaya intee u sii socotaa Shiin waxay ku dhahaysaa waxaa u baahana inaa labadiina wada hashaan si gooni ah waxaan kugu sigi doonaa banaanka Moon wuxuu Lily ku dhahayaa maxaa u rabtin inaa ii aragtid horta adiga yaabay kuma aqaaniye Lily waxay ku dhahaysaa wiilkayga iska cafi aniga waxaan ahay hooyadaada waan awoodi waa inaa hortaada imaado alahaan waa isqarinaya waxayna iska siibaysaa koofida Moon wuxuu ku dhahayaa waa soo dahday aniga hadda kuma baahni waa iska bixi kartaa Lilyna waxay ku dhahaysaa aniga marar badan waa isku dayay inaa kusoo ceshto laakiin waa awoodi waayey wax walba waan isku dayay waxayna fiirinaysaa daladiisa waxayna ku dhahaysaa waa maqlinaa saaxiibka dhigatay daladan markaan kala fogaanay waan ka xumaa wixii dhacay aan iska hilmaamna wixii hore nolol cusub aan bilaabana labadeena Moon wuxuu ku dhahay hadda inaa soo laabato ma ahayn sababtoo aniga aabbahay waxaa ku jira nolol mugdi ah sanadaha intee jirta maxaa mar hor imaaweysay hadda inaa soo laabata ayay ku dhahaysaa waa kuu xiisay iga jooji ciyaartas mar hore ayay dhamaatay Lily iyadoo ilmeynaysa ayay ku dhahaysaa iska kay cafi aniga mar hore waan qaldamay qaladkeyna waa qirta hadda Moon wuxuu ku dhahay iga jooji raalgelintan kadib wuxuu ka kacayaa kursiga kadib asagoo banaanka ooynaya waxa uu imaanayso Shiin Moon wuxuu bilaabay inuu ku furto Shiin wuxuuna ku dhahay maxaa inta ii keentay xadkaaga waa soo dhaaftay adiga ayada waxay ku dhahaysaa isdeji marka hore Moon wuxuu Shiin u sheegay in hadda Lily inay iska dhigayso inay jeceshahay halaansan intay jirtay Shiin waxay ku dhahaysaa waxaa laga yaabaa inay duruuf iyo culays inay haysteen ayna awoodi weysay inay ku timaado kadib waxay siinaysaa hab si xaaladiis u dejiso Moon wuxuu iska tuuraya daladii uu jeclaa dhinaca Lily way ilmeynaysa waxa uu soo laabanaya wiilkeeda Moon wuxuu ku dhahayaa waxa u baahana inaan maqlo qisadaada ilaa dhamaadkeeda inaa iiga sheekaysid si aan u dareemo raaxo oo niyadda iigu degto Moon markuu soo dhamaysto sheekada hooyadiisa waxaa banaanka sugaysa Shiin wuxuuna ka codsanaya inay mar labaad ay hab siiso Shiin mar labaad ayay hab siinaysaa wuxuuna ku dhahayaa waa mahadsantahay Shiin kadib waxay imaanayaan hoteelka asagana wuxuu u sheegayaa Shiin inuu farxad dareemayo maanta si farxad leh u cabi doono cabitaanka inaa hooyada inay iska cafin doono maanta kadib markay hooyaday ka tagtay aabbahay wuxuu isku bedelay qof xun Shiin waxay ku dhahaysaa waxaan dhan waxa u sameeyey sababtoo ah hooyadaa waxay ahayd qof fiican waanu adkaysan waayey iyadoo ku ag joogto haddana aysan ku fiirin karin oo iska qarinayso taas ayaa ka xumaaday kadib Moon wuxuu ku dhahayaa ilaa hadda adoo waxaan dhan aragtay weli riyadaada ma ku taagantahay inaa rumaysid Shiin waxay ku dhahaysaa maya weli ma isbedelin aniga markaan yaraa aabbayga farxad ma sii jirin anigana uma sheegin waxaan jeclaa oo riyadeeda ahayd Moon wuxuu weydiinayaa Shiin maxay aad riyadaada markaa yareed Shiin waxay u sheegaysaa in riyadeeda ay ahayd inay sabirsan gacmeedka oo noqoto artiista uga caansan Korea kadib Moon wuxuu keenayaa gurigeeda kadib ayada waxay ku dhahaysaa hadda waa iska bixi kartaa anigaa galaya guriga
isagana wuxuu ku dhahayaa markaa guriga kugu hubsada lee baxa markay dabaq koowaad fuush waxay ku dhahaysaa iska baxee ilaa had maxaa la taagan tahay muun wuxuu ku dhahayaa waxaa u baahanaa inaa ku ark 3 mar sidaan camal aa hadda ii soo fiirinaysid shiin waxay ku dhahaysaa caabi keliya lee waay beri waa is arkeena iska bax beri keliya waxaa naga xigto inaa caawa seexda leh kadib muun ilaa iyo dabaqa saddexaad ka fuulayso asaga uu fiirsanayay shiin kadib markii subaxdii la gaarsiinayay muun hal mar ayay wada imaadeen hoteelka ayagoo wada taagan waxaa meesha soo maraya gaari u saaran yahay cunug yariis ah wuxuu kusoo shubayaa biyo si uu dharka ugu haleeyo laakiin muun ayaa daladiisu dhigaayo shiin ayaa wuxuu ku dhahaysaa daladan wax u wadid ma yaro hadda maanta wayna badbaadisay kadib aniga isii ayay dhahaysaa adiga la'aanteed waa noolaan ka tahay kadib muun oo siinaya dalada wuxuuna u sheegaa inay si fiican uga ilaaliso kadib markii habeenkii la gaaro waxaa arkaynaa muun oo saad u faraxsan wuxuuna wada uwaxii faraanti si uu ugu soo bandhigto shiin inuu guursado kadib waxaa kor imaanaysa daana waxayna ku dhahaysaa maxaa waaye waxaan inteesa u wadaa kadib waxay ku wada hadlayaan gaariga dhexdiisa muun wuxuu daan u sheegaya inuu shiin jecel yahay daana waxay ku dhahaysaa jeclaa ma jeclaanin lagama yaab inaad sidaan fudud ay iga tagtid waxaa igu balan ah inaa iyadoo nool aan nolosh ku aaso kabaran haddaan dilo iyadoo aan ala cadeen aan reebin taasna waan awoodaa muun wuxuu ku dhahayaa taas ma awoodid wuxuuna soo xasuusanayaa markii ay shiin la afduubanayay wuxuu isdhaha tan wax walba ku suurtooda iyadoo siibix rabto ayuu celinayaa wuxuu ku dhahayaa waxay rabto ku samaynayaa kaliya shiin lay ka fogaaw markii subaxdii la gaaro waxaa isla imaanaya hoteelka muun iyo daana muun wuxuu yaan ku dhahayaa waa inaa baajisaa xaflada lagu dhigro hoteelka isbuucan waxaan u baahanaa inaa ku dhigto arooskeena xafladiisa yaanku wuxuu ku dhahayaa laakiin macquul ma ahan dad ayaa mar hore kiristeen daana waxay ku dhahaysaa arooskaas qof kale ma ahan waa anigii muun arooskeena waxaa u baahanaa inaan soo dedejino arooskeena marabna ilaa waqti dheer inaan kala sii maqnaano kadib waxay gacanta ka qabsanaysaa muun waxayna shiin ku dhahaysaa iyadaan oo diyaarinaysa arooskeena meesha lagu qabanayo ayadaha loo xil saaro qurxintiisa shiin waxay la yaabanay wixii bedela muun oo sidaan iskugu bedelay hal mar kadib waxaa imaanaya beegdo asagana wuxuu gacanta ka qabsanayaa shiin wuxuuna ku dhahayaa noo ogolaada inaan wada hadalno anigii shiin asagoo gacanta ka haysta ayuu meesha ka wadanaya kadib beegdo wuxuu ku dhahayaa shiin meeshan qalbigaaga jebinaya inay sii joogtid ma ahan wuxuuna usoo bixinayaa tikid jarmalka ah iskaaga soo tag meeshaan anigii soo raac waxaa leegu casuum bandhig lagu qabanayo baarliin waxaan soo joogi doonaa hal bil madax ayaa kugu soo degaayo adigna bilow xirfadda aad jecel ee wax sabiridda shiin waxay ku dhahaysaa beegdo maxaa waxaan dhan iigu samaynaysaa adiga asagana wuxuu ku dhahayaa aniga keliya waxaan sameeyey wuxuu qalbiga ii sheegay waan ku sugi doonaa ilaa aad iiga timaadid muuni daan wax isku diyaarinaya arooskooda ayadan wax isku fiirinaysa toobka arooska daana markay soo gashato toobka arooska waxay dareemaysaa in muun uusan inta jooginba ay niyadiisa meel kale ay jirto waxayna kala diraysaa labada shaqaale markay baxan waxay jebinaysaa weelka ubaxa si uu miirku ugu soo laabto muun waxay ku dhahaysaa ma ka bixi rabtaa heshiiskii aan xalay wada galnay si aad u ilaaliso shiin asagana wuxuu ku dhahayaa aniga waxaa halkan u joogaa balantii aan kaa qaada xalay maxaa kaloo iga rabta inaan kuu sameeyo daana waxay ku dhahaysaa waxaa lagaaga baahnaa inaa ila doorid toobka arooska sida dadka kale camal oo isguursanayaan muun wuxuu daana ku dhahayaa adig keliya waxaa kuu dhiman inay dhahdid sida boombal bater la geliya camal iigu sacabi daana waxay bilaabaysaa inay iswaasho oo qayliso iska jarto wixii ay wadatay kadib muuna u soo kacaya wuxuuna u sheegaya inay waalidan iska joojiso wuxuuna wejigeeda ka tusayaa miyaaradda wuxuuna ku dhahayaa daana adig quruxley ayaa tahay sidoo wejigaaga u qurxan yahay waa inuu u qurxanaadaa qalbigaaga kadib daana waxay imaanaysaa gurigeeda gurigana waxaa jooga aabaheeda agtiisa ayay fadhiisanaysaa waxayna ku dhahaysaa aabe adiga ma ku faraxsanta inaad guursado aabaheed wuxuu ku jawaabayaa haa gabadheed maxaa ugu faraxsanaan waaye aroosku wuu fiican yahay waan raaxada adduunka ayada hal mar ayay garifiis ku seexanaysaa waxayna ku dhahaysaa aniga muun si xadaaf ayaan u jeclaa laakiin maxaa u waayay qof saas ii jeclaado aniga noloshu way igu adkaysa maxaasaan layu galaa oo aan sameeyey ooyin ayaa hal mar af furanaysa daana kadib markii subaxdii la gaaro waxaa arkaynaa shaqaalaha hoteelka oo banaanka taagan hoteelkan uu xirnaa shiin ayaa imaanaysa waxayna weydiinaysaa wixii dhacay ayagana wuxuu sheegaya in albaabkii laasaaka inuu xiran yahay yaang wuxuu teleefon kula hadlayay muun wuxuuna u sheegaya kulligood in la fasaxay oo maalmo ay geli doonaan fasax kulligood waa iska baxayaan laakiin yaang wuxuu sheegayaa shiin inay wax khaldan yihiin ee u tag muun ay soo ogaa wixii dhacay haddii wax laga qaban karo shiin waxay imaanaysaa guriga muun markuu albaabka furo waxay arkaysaa muun in wejigiis oo leeyahay dhaawacyo shiin waxay weydiinaysaa wax ku dhacay isagana wuxuu ku dhahayaa inta maxaa ku keeno oo iga soo doontay subaxan shiin waxay ku dhahaysaa maxaa waaye fasaxan degdeg ah iyadoo la iska fasaxay shaqaalaha iyagoo loo sheegin muun asaga warkaas kuma wada socdoba shiin oo la hadlays ayuu ka dhaqaaqayaa ayadan waxay ku dhahaysaa adiga ma xanuunsan tahay maanta muun wuxuu sheegaya inuu daalan yahay maanta haddii aadan wax muhiim igal hadlaynin waa iska bixi kartaa shiin wuxuu sheegaysaa in beegdo inuu ku dhahay kasoo tag hoteelka shaqadiisa markaas kadib waxaa isku raaci doonaa baarliin muun wuxuu ku dhahayaa shiin maxaa sugaysaa marka ma israacdiin shiin way la yaabta ficilcilintiisa adig run may kaa tahay inaa raac maarabtaa waxayna ku dhahaysaa bas waay adiga mar kale ma wada kulmi doono intaynoo kala dhamaatay ayadoo sii bixi rabta ayuu gacanta ka qabanayaa kadib wuxuu ku dhahayaa waxaan rabaa inaan wax kuu sheego intaadan bixin ka hor indhaha isku qabo kadib ayadoo rabin ayuu hal mar shuminayaa ayadoo yaaban ayay iska fujinaysaa waxayna ku dhufanaysaa dharbaxsho waxayna ku dhahaysaa adiga isqajaan ayaa tahay wayna ka tegaysaa markay banaanka timaad waxay bilaabaysaa inay ilmayso waxayna dhahaysaa ma aan sidaan qaabka daran inaa ila dhaqantid muun asagoo ku xumaa wixii uu ku sameeyey shiin wuxuuna soo xasuusanayaa xalay wixii dhacay muun asagoo iska fadhiya hoteelka oo cabitaan cabaayay waxa uu imaanaya daana aabaheeda oo wata akhyaar kale ayagoo wataan budad daana aabaheeda wuxuu ku amrayaa ciidankiisa inay jibiyaan wix hoteelka yaala oo dhan waxayna bilaabayaan inay budo ka dhigaan wax walba ay arkaan daana aabaheed wuxuu soo qabanayaa muun wuxuuna ku dhahayaa sidee u awood inaad gabadheed ka oysiisid wuxuu ku bilaabayaa feer hadda mar labaad ayuu soo kicinayaa wuxuu sheegaya inuu nasiib badan yahay haddii aysan daana ku jeclaan lahayn waxaan wax ka xun ay kugu samayn lahaa kadib dhulka ayuu ku tuurayaa kadib markay ka tagaan waxa uu imaanaya aabihiisa wuxuuna ku dhahayaa aniga hore kuguma sheegin miya jecelaha raadin soo kuguma dhihin muun wuxuu ku dhahayaa aniga maxaa kaloo samayn lahaa xataa hooyadii aan jeclaa waa ii soo laabatay waana faraxsanahay maanta aabihiis wuxuu ku dhahaa hooyada amaa kulanteen maxaa kaloo kuu dhiman yaa marka lagu qiyaamin muun aabihiis wuxuu ku dhahayaa aabas intaa u ka ekeeno aniga marka hore waxa uu maleeyi jiray gabdhaa inay sida dhagax oo kale ma awood inaan noloshii hor ku noolaado aniga hadda qof ayaan jeclahay aabihiis wuxuu ku dhahayaa okay marka haddii arrinta sidaas tahay hadda kadib aynu kala dhamaatay aniga iyo adiga wax xiriira nagma dhexeeyo hoteelkan iska xir hooyadaanan aad adigoo haysan wax business oo shiid ah haddii ay ku
jeclaan doonto hadda wax walba way dhamaadeen adduunka hadda qof ku jecel ma lahan ee macsalaamo duqa iska sii baxaya muuna sidaas darteed ay iskaga foysheen ayadana soo dhib u gaarin kadib maalintii xigtay shiin waxaa loo geenayaa warqad xiran markii ay kala furtay waxay ku arkaysaa inay tahay sabar ay sabirtay markay yareed waxay soo xasuusanaysaa markii iyaday muun markay wada joogeen habeenkii gurigoodii hore muun wuxuu ku arkay sabirka kadib markaas wuxuu geeyey shaybaarka si sabirka looga saaro wasaqda lagana dhiga mid nadiif ah sabirka waxaa la socday warqad uu soo qoray muun wuxuu warqad ugu soo qoray muun aniga markii ugu horreysay aan ku dhahay sandareele lama tihid run ayaa kuu sheegay sababtoo ah aniga waxaan ku arkay qof dagaalyahan ah oo raba inuu noloshiisa bedelo oo nolosha dagaal kula jiro qofka dagaalyahanka oo geesiga wax walba uu ka rabo nolosha wuu samaysan karaa meeshuu rabo wuu aadi karaa asigoo cabsanaynin adiga waxaa tahay geesi sida anigu malayna waa kasii geesisan tahay waxaa tahay qofkii ugu fiicnaa aan la kulmo shiina markay warqadda dhammaysato waxaa kasoo daadanayso ilin fara badan kadib waxay aadaysaa suuliga waxayna iska soo dhaqaysaa wejiga markay kusoo laabato qolka waxaa soo bacayaan wuxuuna u sheegay in hoteelka la xiray muuna laga soo buriyey guriga kadib markuu diiday arooska daana muun aabihiis wax walba uu siiyey uu ka cishday hadda ninkaas wax ma haysta faqiir ayuu noqday shiina markay warkaas maqashay la yaabtay kadib shiina waxay u tegaysaa beegdo waxaynu celinaysaa tikidkiisa waxaynu ku dhahaysaa beegdo adiga qof fiican ayaa tahay waadna mahadsantaa kuuma raaci kara baarliin beegdo waxuu shiin ku dhahaya maxaa dhac ii sheeg shiina waxay ku dhahaysaa inaysan raaci karin qof ayada dareen jecel u haayo beegdo waxuu ku dhahayaa shiin laakiin aniga kaama dalban inaad si degdeg ah ii jeclaatid soo bax isoo raac ana wada guulaysane waan ku caawin doonaa si aa u noqoto waxaa jeceshahay shiina waxay ku dhahaysaa aniga qalbigay ayaa sidaas ii sheegay mana ku raaci kari I am sorry please waxaan kuu rajaynayaa inaad ku raaxaysatid safarkaada baarliin kadib markii subaxdii gaarshiin way soo baxaysaa ayadoo waddada iska marayso waxay isdhahaysaa hadda muun wuxuu ku sugan yahay kadib waxay sawirinaysaa muun oo meel koomba dhigta oo tugsanayo oo markii ay baahi qabato oo tagayo dukaan lagu iibiyo rootiga kadibna uu awoodi waa inuu gato hal rooti kadib markaas uu xadayo hal rooti oo asana hal mar la bursanayo waxayna isdhahaysaa maya taas ma dhici karto ninkaas wax walba hadduu dhaco lacag ma waaynayo kadib socodkeeda ay iska sii wadanaysaa siday u socot waxay is arkaysaa iyadoo hortaagan hoteelka markay gudaha soo gasho waxay arkaysaa hoteelka alaabtiisa oo dhan oo jajaban waxayna isdhahaysaa maxaa waay meesha maroodima ku almiinteeyey ayadoo meelaha fiirinaysa waxay arkaysaa qof meesha ku dhakan shiin ayadana cabsi ayaa wadnaha go'i rabay waxayna ku aadinaysaa dalada markay u soo dhawaato hal mar ay duudka ugu dhufanaysaa dalada kadib waxay arkaysaa qofkay ku dhufatay inuu ahaa muun kadib shiin waxay weydiinaysaa muun maxaa inta ka samaynaysaa kadib waxay daaraysaa nalka waxayna ku dhahaysaa maxaa u tagta hoteelkaada waaba jecleen mise anigoo raalli kaayna ayaa ishim sidaas darteed ma iskaga xirta hoteelka kadib waxay u soo taagaysaa gacanteeda waxayna kicinaysaa dhulka shiin waxay ku dhahaysaa muun adiga hadda maamulahayga ma tihid wax walba waan ku sheegan karaa aniga hadda waan ku jeclahay isagana wuxuu ku dhahay hadda haddaa i jeceshahay aniga wax ma haysta faqiir ayaan ahay shiin waxay ku dhahaysaa muun hadda labadeena faqiiriin ayaan ahay noloshan hoos waan kasoo bilaabi karnaa muun wuxuu shiin ku dhahayaa nolosha keliya inaysan een lacag waxaa loo baahan yahay labada qof inay qalbi iska dareemi karaan kadib wuu shuminayaa ayadana waxay ku dhahaysaa sanna ma ii jecleed muun wuxuu u sheegayaa shiin inuu wax walba u waayey uusan hal mar ka walwalin laakiin adiga jecelkaada waa ku dhiman karaa leh kadib wuxuu u soo bixinayaa faraantiga arooska farta ayuu gelinayaa kadib waxay keenaysaa gurigeeda waxaynu u sheegaysaa akhyaarta kale in muun uu caawinta seexan doono muun wuxuu ciddeeda u sheegayaa inuu yahay shiin jecelkeeda cusub kadib markay eedada maqasho waxay kawadaysaa meesha labadeeda gabdhood si uu muun u seexdo fadhiga shiin waxay dhulka fidinaysaa busto si u seexdo muun markay u fidiso waxay ku dhahaysaa adiga keliga inta seexo aniga qolkayga ayaan aadayaa asaga gacanta ayuu ka qabanaya waxaanu ku dhahayaa inta ila seexaaba aniga keliga ma seexan kari inta shiin way ka ogolaanaysaa waxayna iskuujinayaan bustaha subaxdii markii la gaar waxaa kasoo horkacayaan eedadii iyo khiyaarta kale shiin iyo muun ayagoo xaalkood iska yaa bariga dhexe waxaa haraanta ku kicinaysa habaa muun markuu arko ayuu kicinayaa laakiin shiin ayada waxaas uma wajeedo ciddeeda way la yaabanaayeen kadib waxay suwad fadhiisanayeen miiska cuntada kadib habaa waxay u keenaysaa cuntadii uu nacbanaa muun markuu arko wuxuu qabsanayaa sanka shiin waxay muun ku dhahaysaa maxaa cuntada ma jeclid miya waxay qayl ku bilaabaysaa habaa waxayna ku dhahaysaa maxaa cuntadan miisku soo saartay muun wuxuu iska dhigaa inuu jecel yahay cuntadan ayna tahay cuntadu adduunka ugu jecel yahay habaa waxay iska soo jaraysaa aniga waxaa cuntadan u kariyey inaadan cunin haddaaba jeceshahay aniga waa inaa kisteeda gurtaa muun wuxuu bilaabaya inuu isku daldalo cuntada si aan looga dareemin inuu been sheegayay kadib wuxuu ugu imaanayaa aabihiis isbitaalka aabihiis isagoo xanaaqsan wuxuu kusoo tuuraya qaandada wuxuuna ku dhahayaa iga tag ani soo kuuma sheegin inuu dhammaada xiriirkeena orod ku laaba meeshaa ka timid muun wuxuu u sheegaya inuusan u imaan inuu wax weydiisto keliya waxaa u imaan inaa kuu sheego markaa kaa tagay waxaa gala nolol farxad badan aniga iyo jecelkeyga intaa bixin kahor waxaan jeclaystay inaa wax kuu sameeyo wax wanaagsan sidaas darteed ayaan kuuga imaaday waxaa kuu keena hooyadeyda waxaan kuu sheegayaa inaa kala doorid inaa ku noolaad nolol farxad badan inta noloshaada ka dhiman ama inaa iskaagu jirto noloshan mugdiga ah oo farxad aan lahayn kadib wuu ka tegaya waxaana iridka soo gelaysa hooyadiisa odaga markuu arko wuxuu bilaabaya inuu isboojeeyo laakiin liili ayaa u soo ordaysa hab ayayna siinaysaa waxayna ku dhahaysaa is-adkeedkan jooji intaan kadib looma baahna madax xanuunkan waxaa loo baahan yahay inaa ku sidaad hore kusoo laabatid oo aad jecel iyo naxariis aad dareentid muun markuu kasoo tago isbitaalka waxaa soo bacaya aabihiisa wuxuuna ku dhahayaa wiilkeygii waxaa rabaa inaa kugu wareeji hantida oo dhan hadda kadib aniga waa duqoobay waxaa loo baahan inaa adiga aad maamushid hantidan oo dhan muun wuxuu ku dhahayaa aabihiisa inuusan u baahnin asaga uu noloshiis eber kasoo bilaabi doono adigoo yacmin ayaa noqonaya milyaneer liili waxay ku dhahaysaa madax adeega jooji hadda kadib odagan wuu duqoobay shaqadiis waa inaa la wareegtaa aabihiis wuxuu ku dhahay hadda lay aniga jecelkeyga helay waxaa u baahan inaan jabi degan iska galo ee kaale howshan culeyskeeda iga qaad muun wuxuu ku adkaysanaya inuusan usoo laaban doonin hoteelka kadib taleefanka ayuu ku daminayaa kadib shiin waxaa soo bacay nin wuxuuna u sheegayaa beegdo inuu tusabareeda uuna ka helay waxa uu bedeli doonaa filim kartoon ah ee adiga diyaar ma tahay shiin ayadoo faraxsan waxay ku dhahaysaa ha diyaar ayaan ahay markay taleefanka dimis waxay bilaabaysaa shiin inay boodboodo farxad darteeda meele isgees ayay weynaysaa 6 bil kadib waxaa arkaynaa shiin eedadeeda oo la gaar waqti ay dhal lahayd oo joogta isbitaal kadib waxay dhalaysaa gabar shiin markay aragto walaasheeda yariista ah aad ayay u farxaysaa sanado kadib shiin waxay rumaynaysaa riyadeeda ahayd inay noqoto qof maalqabeen ah muun wuxuu kusoo laabanaya hoteelkiisa halkaas ayuu ku dhammaanayaa taxniin oo socday ha ilaabin inaa muuqaalka leeg saartid saaxiib nagu cusub haddii aad tahay sabscribe soo dheh janalka